بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. جمعة وناكسن. أفر وناكسن. تراويح وناكسن. دمان أصحابتا السوشيال ميديا فيسبوك وحان ديكو سو دوينيا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولايف waxaan ka hadlaynaa insha Allah arrimaha bulshada iyo qurbaha waana su'aal iyo jawaab marka qof walba wuxuu ka soo hadli karaa wixii su'aal ah isla markaana waxaan isku daynaa insha Allah wixii jawaab ah oo dhanka ku saabsan dad ayaa soo codsaday waxa la yiri arrimaha guud ee bulshada ee Soomaalida qurbaha aan ka hadalnayaa la yiri marka waxaan ku gaarnay in aan sameeyno marka wixii su'aashiina dhamaan waa idin soo dhaweynayaa reer Sweden, reer Finland, Soomaaliya, Imaaraadka Carabta, magaalada Dubai. Dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya maasha Allah. Engineer Smart waan ku salaamaya. Marka arrimaha bulshada maxaan kaga hadli doonaa? Waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha ka jira Soomaalida qurba joogta ah oo annaga aan ka mid nahay. waqti badanna wadankii ka maqnaa marka maxay kororsadeen maxay sameeyeen noloshooda waa noocee marka waxyaalahaas ayaan ka hadlaynaa taasna asbuuci hore ayaa la ii soo diray runtii waxaan ku xayeysiinay 9 habeenimo laakiin 9 iyo 20 iyo dhowr daqiiqo ayaa laga afuraa magaalada London saawgeeda waxaan isniray dadka ka qasina afurkooda marka gacan fureedii ku soo dhaweynaya marka su'aalaha ugu horeeya waxay noqdeen guurka iyo qurba joogta ayaa la soo weydiiyay kaasoo ah in wadamada Soomaalida ay u badan yihiin North America iyo Europe qaasatan wadankan Ingiriiska iyo wadamada Scandinavian-ka guurkii uu noqday ganacsi ama business qaali ah oo aan loo dhawaan karin marka arrimahaas maxaa keenay sidee looga hortagaa sidee loo ogaadaa waxaas oo dhan marka dad ayaan weydiiyaa marka su'aalaha la soo weydiiyo sababtoo ah anigu waxaan ka aqaan ma leh laakiin dad ayaan weydiiyaa dad khubaro ah ayaan weydiiyaa waxaan yiraahdaa Saaciid Nuur Daqale waan ku salaamayaa dad ayaan weydiiyaa waxaan yiraahdaa bal arrimahaas ha laga sheekeeyo guurka iyo qurba joogta marka waxay yiraahdeen guurkii wuxuu noqday ganacsi ayuu noqday business marka jacayl wuxuu noqonayaa baaliri secondary qaybta labaad ayuu soo galay jacayl isku guursado waxa la isku guursadaa kaliya dhanka iyo businesska condition ayaa la isku xirayaa la yiri conditionkaas muxuu yahay haddii gabadha ay ku tiraahdo habeenka arooskayga oo xafladda maalinta ay dhacayso waa in helicopter lagu keenaa dahab 500 oo gram oo dahab laga iibiyaa kaasi waa business jacayl ma ahan business waxayna wadaadada iyo dadkii aan weydiiyay sheegeen aroosku ka qaalisan yahay waa ka furid dhow yahay waa fact ay yiraahdeen waayo duca ma jirta ay yiraahdeen aroosku waa lagu ducaysaa sababta ayaa keentay ayaa la yiri in 10 qof ee qoys ee Soomaaliyeed 8 ay burbureen arrimahaas ayaa weynaya la yiri sababtoo ah il ayaa ku dhacaysa ishan waa wax jira isha ayaa ku dhacaysa waxa leeyahay aroos hebel waxa ku baxday qarash ah ilaa iyo $100,000 ayaa ku baxday waa laga sheekeeyaa leeyahay marka sheekadaas habeenka ama asbuuca kale ayaa laga sheekeeyaa laakiin waxa ka dambeynaya waa disaster ayaa ka dambeynaysa taasoo ah reerkii marka runta ay timaado ilaan maalinta arooska ama asbuuca arooska run ma jirto waa mala'awaal Soomaalidu waxay tiraahdaa mala'awaal mala'awaalku wuxuu yahay in la yiraahdo hebel iyo heblaayo arooskoodii waxaa lagu keenay 100 gaari oo kala duwan oo limousine ayaa lagu keenay helicopter iyo gabadh lagu soo qaaday dahab ayaa loogu soo qubeeyay hadii la yiraahdo gabadha dadku aad ay ula yaabayaan laakiin arooska ugu wanaagsan wadaadada waxay yiraahdeen iyo dadkii kale ee yaqaana arrimaha bulshada waxay yiraahdeen aroosku wuxuu ku wanaagsan yahay arooskii la yaqaanay dhaqankii Soomaalida sababtoo ah dhaqanka Soomaaliya waa laga xishoon jiray heblaaya la furay iyo mareerkii uu dib ma jiri jirin Soomaaliya in la isfuro
waana fact jirta aabbayaashina iyo hooyooyinkeena hadda waxay isqabaan 50 sano wax ka badan bay isqabaan Soomaali aad bay ugu yareed in dagaaladii kore aynu ka hadlaynaa laakiin dagaaladii kadib la soo qaxay iyo disasterka dhacay waddanka awgii waxyaalo badan ayaa isbedelay marka awal waxay aan jirtay in laga xishoodo furitaanka iyo waxyaalahaas laakiin hadda qurba joogtii arooskii iyo furitaankii wuxuu noqday wax la yidhahdo casual ama wax maaragtay waa weekend la yidhaahdo waxaan weekendigan baan rabaa gabadhaas inaan guursado 10 maalmood ka bacdina aan iska furo wuxuu noqday ma noqonin udubkii reerka la dhisay ma noqon wuxuu noqday commercial ayuu noqday commercialized ganacsi business ayuu noqday marka maxaa dhacaya inankii condition ayaa lagu xirayaa waddankan Britania waxaa ka dhacay aroos aad looga sheekeeyey marka qofka kugu fiican ee axsaanka ku sameynaya arooska wuxuu leeyahay bariis xun ama xalwad xun buu soo siiyay ama habeenkii xaflad waa la isku dagaalay kan kugu fiican marka inankii gabadhii bay isjeclaadeen waxa lagu xiray ugu horeyn meher ah $50,000 ayaa lagu xiray kow second one waxa la yiri aroosku waa inuu asbuuc socdaa baa la yiri asbuuc waa inuu socdaa waxa la yiri dahabka waa in Dubai laga soo iibiyaa marka ma jiri karto unless adiga lacagtii Soomaali soo dhacday ama aad ku guuleysatay qamaar aad ku guuleysatay ma dhici karto qof dhalinyaro ah oo guurdoon ah oo da'diisu ay ka yartahay ilaan Soomaalidu soddon wixii ka yar ay ku guursadaan ma dhici karto qofkaas inuu keeni karo marka maxaa banaan wadamadan reer Yurub waxa badan wax la yiraahdo deenta ama loonka ay bangiyada ku siiyaan 100 kaar ayaa soo dhacaysa bangiga ka soo dhacaysa waxa lagu leeyahay interest free oo been ah ribo kuma jirto ayaa lagu leeyahay marka waxa lagu siinayaa 10 kaar midkiiba waxa ku jira $20,000 ayaa ku jirta marka lacag aad u fara badan ayaa jeebkaaga soo galaya adigu waxaad u jeedaa gabadhii sida ku heleed laakiin gabadha kama muuqdo jacaylku waa la yaqaanaa jacaylka indha ayuu leeyahay luga ayuu leeyahay laakiin sheekada markii ay noqoto gabadhan haddaysan jeclayn maxaaba keenay inaan isguursano haddii dadka Soomaalida qabiil bay isku guursadaan ina waa ayaa la leeyahay hebel Soomaalida waxay tiraahdaa qabiilka it's not necessary in qof aad guursatay qabiilkiisa iyo wixiisa aad guursatay qofku waa inuu yahay gabar wanaagsan ama ina wanaagsan inuu ahaado qof reer Soomaaliyeed ee keeni kara oo dhaqi kara wax sameyn kara oo Soomaalidii sidii loo yaqaanay laakiin $200,000 ayaa aroos lagu dhigaya 100,000 ayuu aroos ku dhigay inankii sheekada diyan ku soo laabto arooskii asbuuc ayuu socday waa laga sheekeeyay laakiin sheekadu waa wax yar waa very very small waa laga sheekeynay asbuuc waxa leeyahay Cabdinaasir iyo gabadhii quruxda badnayd ayaa isguursaday arooskooda helicopter baa lagu keenay waxa la keenay fanaaniintii ugu qatarsaneed ee Soomaalida la keenay waxa lagu sameeyay hoolka ugu weyn shaydaanku waxay yiraahdeen wadaadada aad buu u farxaya honeymoon lama aadin oo waxa ugu muhiimsan ee labada qofood ee isguursada asbuucaas la isu raaco Talyaanigu wuxuu yiraahdaa luna di miele Soomaalida kulli waagi hore lama aqoon laakiin hadda ay soo badanaysaa honeymoon lama aadayo honeymoonka waqtiga ugu wanaagsan ay isfahmayaan labada qofood ee isguursaday marka maxaa dhacaya habeenkii arooska la isu tago gurigii looga soo tago asbuucii xaafadda isla joogaan maalintii toddobaad reerkii cunto lacag ay ku soo iibsadaan ma hayaan arooskoodina waxa lagu dhigay 100,000 oo deen bangiga laga soo qaaday sababtoo ah 25 maalmood kadibna bangigii wuxuu soo codsanayaa lacagtii ugu horeysay ee kiskista loo bixinayay in loo soo celiyo waxa soo dhacay waraaq waxa lagu leeyahay Mr. Cabdinaasir 100,000 baad qaadatay waxa laga doonaya ugu yaraan $2,000 inaad bangiga ku soo shubtaa iyo interest ribada ku soo shubtaa marka dagaalka meesha ka bilaabanaya gabadhii $100,000 bangiga u soo deemisay oo aad tiri qof yahay waatande waxa tahay faacid ka roon baa tahay wax walba ku sameyn karaa hadii ka yeeli mayso asbuuc kadib jeebka waa maran yahay ee cunto waxaan ku cuno iska ilow honeymoon cunto waxaan ku cuno ma hayno ka yeeli mayso maxaa dhacaya waa la iska hor imaanaya la isma baranin la isma jeclaan waa la iska helay waa lust waa la iska helay
marar badan ayaan ka hadlay gabdhaha waxay yidhaahdeen cabdinaasir maxaad ka wada waa la iska helay waa la iska helaa jacaylka soomaali haddaan nahay waxaan isku qaladnaa iska helidda iyo jacaylka ayaan isku qaladnaa iska helid waa maxay aroos baad tegaysaa caawa gabdha aad u qurux badan gabdhaha Soomaalidan waa gabdhaha adduunka ugu quruxda badan gabdha aad u qurux badan waxaa tahay inan aan weli guursan baa tahay wiil guurdoon baa tahay aroosyada dee waxa la isugu tago waa in la isku bartaa waa caadi waa wax furan oo fiican in la isbartaa gabadhuna waxaa laga yaabaa inay guurdoon tahay inankana guurdoon yahay waa dhaqan Soomaali waa dhaqan Islaam waa la isguursanaya no problem qof baan arkaya waan ka helayaa waa la iska helaa dhib male laakiin jacayl ma jiro jacayl ma jiro waa la iska helay kaliya waa la iska helay kaliya jacayl ma jiro gabadhiya indhaha isku dhacay waa la isu baaqay gabadhii markay kusoo agstaagtay oo uunsigeedii iyo barfuunkeedii ugu dambeeyey kugu soo carfay waxaa istiri indhaha isku qabatay waxaa tiri $100,000 way u qalantaa baa tiri tabcan gabdhaha Soomaalida 100 iska daayay 1 milyan ayay u qalmaan dollar iyo dahab wax bay u qalmaan laakiin weli jacaylka lama gaarin jacaylkii oo aan la gaarin ayaa waxa la isu guursanaya iska helidda ama lastigana wuxuu u badan yahay in la yiraahdo qofka aadan jeclaanin oo waxa dhacaya in aad tiraahdid qoftan waxaan u doonayaa physical waxa la jacaylka ma ahan physicalka waxaan ka wada qof walba waa fahmi karaa marka physicalka jacayl ma ahan wuxuu ka mid yahay a part of the love ayuu ka mid yahay jacaylka qayb ka mid ayuu ka mid yahay laakiin Soomaali haddaan ay 99% waxaan u gelinaa qoftan wallaahi caadi ma ahan waa kala taagan tahay waa lust shahwada ayaa ku haysa marka it's not love jacayl ma ahan and it's a big mistake haddii gabar qurux badan aasaad ku guursatid oo aadan jacayl aan olin dhib weyn ayaa ku imaanaya markii ay la isbartay waxaa la yiri cidan ka soo doonanaya condition ayaa imaanaya sababtoo ah indha jacayl waxa la isma eegi karaan laakiin gabadhii iyo wiilka day is eegaan jacayl meesha ma yaalo bal adiga tijaabo sabay qof aad jeceshahay ama ku jecel sidaan u eg ma eegi kartid indhaha saan uma qaban kartid sababtoo ah indha jacayl isma eegi karaan waa fact waa wax jira marka waxa dhacaya waxa lagu heshiinayaa in la isguursado dib male de gabdhaha Suuriya laga bixi dhaqan baan leenahay Soomaalida Soomaaliya waxa laga bixiyaa waa dhaqankeeni laakiin condition ma jira maaragtay wadamada Saudi Arabia iyo Imaaraadka iyo xataa wadanka Korea waxaa jirta dhalinyaro aad u fara badan oo shabaab ilaa iyo 1,000 hal mar la soo wada guuriyo sababtoo ah hadda wadamadii carabta dhaqaale xuma ka dhacday ka waran wiilka Soomaaliya jooga ama qurbaha jooga ee doonaya gabar uu ka helay ma ahan gabar uu jeclaaday inuu guursado marka jacaylku gormo iman karaa jacaylku waqti yar ku iman karaa asbuuc baa laga yaabaa inuu ku yimaado jacaylka bil baa laga yaabaa sanad baa laga yaabaa laakiin waxaad garanaysaa gabadha markii ay ku tiraahdo hebelow aniga waan ku jeclahay reerkayga doono maxaad doonaysaa inaan ku sameeyo ninkaasay ragnimadiis ka imaanaysaa soo maaha waayo adiga ma doonaysid in lagu yiraahdo warne ninkii gabadha gacanta iska qabsaday oo balay in lagu yiraahdo ma doonaysid gabadha ay ku tiraahdo wax alla wixii aad doontaa diyaar u tahay way ku jeceshahay wax alla wixii adiga diyaar aad u tahay ayaan kugula joogaa diyaar baan u ahay gabadh way ku jeceshahay markaas ayaa laga doonaya ragnimadaada inaad wax qabatid oo tirahdid bilna si laba bil si ama hal sano si aan ragnimadeeda banaanka aan u soo dhigo aan wax u soo raadiyo reerkii aan kaaga doonto lagu duceeyo laakiin dibka wuxuu dhacayaa marka lagu yiraahdo saaxiib dhageyso anima rabtaa ha anigu reer hebel baan ka dhashay sidaan baan ahay hadii dahab noocaas la keenin aroos noocaas oo ka dhicin hotel Hilton iyo limousine noocaas la keenin helicopter London helicopter ayaa gabar lagu keenaa gabdhihii aqal Soomaaliga loo dhisi jiray oo loo dheeri jiray loo heesi jiray oo maaragtay helicopter lagu keenaa sababtoo ah waxa la doonayaa in video laga duubo oo la yiraahdo masha Allah arooskii Caasha iyo Cabdinaasir maaragtayna helicopter ay ku timid gabadhii helicopter haddii aan ku keeno maalintii 7 aan ka soo baxnay shilin aan jeebkana ku jirin maxay tiraysaa wataa in shay qofku ugu wanaagsan wuxuu ku leeyahay bariis xun buuna siiyey cuntadii way kala go'day gabadhii sheekadeedaan ku soo laabto waqtigii marka la gaaro timekii waa la iska hor imaanaya u fiirso wadadaad maraysaa maanta London ama Toronto ama Helsinki ama
stockholm ama dubai meel ay ahaataba waddaas ka socota qofaa ka hor imaanaya wuxuu ku leeyahay maxaad ii eegaysaa anaga soomaalida waxaan naqaan qof hadduu ku yidhahdo maxaad ii eegaysaa see u aragtaa la yidhaahdaa ilan ismaa ku eegayso maa way isdagaalaysaa qubqac waa la isku dhufanaya weligiin isma arkin marka gabadhii arooska aad ku soo baratay ee quruxda badneed ee aad ka heshay oo kugu aragtay habeen is arki jirteen oo kugu aragtay helicopter inaad usoo karaysay aroos inaad u dhigtay asbuuc kadib marka ay kaa soo adkacdo iyadoon makeup aan u marsanayn ama barfuunkii aan jirin ama wax walba ay dhacaan oo aad tidhahdeen lacag ma jirto lacag ma hayo maxaa dhacaya marka waxay leedahay saaxib dee baabuurta iska celiyay ku leedahay waxba kuma qaban karay leedahay maxaan kugu samaynaya maxaan kugu haystaa bay ku leedahay kuma le jeceyl kuguma haysto gabadhu laakiin hadday top ay tahay wax fahmi karta waxay ku leedahay cabdinaasir dee nin dhallinyaraad tahay waad shaqaysan kartaa wax waa ii qaban kartaa bal mustaqbalkan aan isla dhisno dhankaaga ka samee dhankaagan ka samaynaya laakiin haddii la isku guursaday in la iska helay oo condition meeshu yimaado is done guurkana sanadka ugu horeeya ayaa ugu muhiimsan sanadka ugu horeeya hadduu dhaafo dadku waxay samaynayaan wax luqadda ingiriiska lagu yihahdo bond ama way isku dhegayaan way isku soo dhawaanayaan kaasoo ah in uu guurka sii raagi doono laakiin 3 bilood ee ugu horeyso waa meesha ugu dhib badan waa la isku dhacayaa marka maxaa la sameeyaa haddii jecel ku guursatay jacaylkii ayaa isku kin haynaya oo qofna ma samayn karo problem laakiin haddii la isu guursaday gabadh way kaa tegaysaa ama adaa ka tegaya waxaad arkaysaa noloshaadii ciriiri la soo geliyay sababtoo ah gabadhii condition iyo helicopter baad kusoo guursatay iyo xaflad aad u weyn gabadhii kaa yeeli meesha inaad tidhaahdid baasta iyo bomodoro ayay yidhahdeen talyaaniga baasta iyo yaanyadan ayaa guriga lagu karinaya maya gabadh waxay doonaysaa habeen walba in restauranti aad geysid waxaad doonaysaa gaariga inaad ka furtid hadee ma jirto bangigin lacagta ayuu kuu soo diraya wuxuu ku leeyahay Mr. Cabdinaasir bishan lacagtii waad keeni weysay guriga alaabta yaala ayaan ka qaaday alaabihii aad soo iibisay guriga aad u soo iibisay ee tvgii weynaa computerkii laptopkii saacaddii dahabkii o dhan ayaa laga qaadaya waa lagu fadeexaynaya blacklist lagu gelinaya marka waxaa soo baxaya crack ayaa soo baxaya guryaha haddii ay meelo qaarkood ay ka jeexmaan cracga macnaheeda way soo dumaya gurigii la dhisay dumisiis meeshay ka bilaabanaysaa sababtoo ah been ayaa laisku guursaday marka been ayaa laisku guursaday run layskuma dhaqi karo waa sheekadii bilcagsiga ee sheekh maxamed insha allah very soon waxaa la yidhi gabdhaha been baa lagu soo xergelay run baa lagu dhaqaa I'm sorry bullshit waxba kama jiraan raalli ahada luqadeeda faransiiska waxba kama jiraan gabar run baa lagu soo xergeliyaa runna waa lagu dhaqaa waa sheekada sheekooyinka waa aabbayaashani awyaashani iska ilow gabar haddaan maanta idhaahdo anigu cabdinaasir baa la yidhahdaa waxaan ahay milyaneer lacag baan haystaa helicopter baan ku samayn karaa inta balaayo beentu waxaa la hal lug bay leedahay only one feet to stand lugta haddii la qabto way dhacaysaa haddii hal lug aan la qabso ma dhacayo beentu waa dhacaysa runta maalin bay imaanaysaa gabadhii aan ku yidhi abbay diyaaraddaha baan ku iibinayaa maalintii dambe hadday aragto anoo baaskiil haysan waxay leedahay kan waa beenaal ima jeclan awalba lacagtay ku jeclaatay soo maha lacagtii beenta ayaday ku jeclaatay marka ma kusoo xergeliyey gabadhii been ma kusoo xergeliyey run say u dhaqi karaa marka haddii aan been kusoo xergeliyey impossible kuma dhaqi karo maaragtay run kuma dhaqi karo ilaan been baa ka horeysay beentana dee waad ujeedaan maaragtay islaamka xaaraan ayuu ka dhigay marka kusoo dhawaada mar labaad waa ramadaan kariim jimca kariim afur wanaagsan suxuur wanaagsan meelaha kala joogtaan adduunka waxaan ka hadlaynaa arrimaha bulshada guurka ayaan ku bilownay marka iyadoo sidii ay tahay guurkii wuu dhacayaa sababtoo ah waxaa imaanaya iska hor imaad weyn ayaa imaanaya waxaa leeyahay cabdinaasir waxba ma heshid guriga ka baxayaa lagu leeyahay waa ka baxaysaa meel kalaa tegaysaa ama nin saaxiibka ah ama qofku ahaadaba gabadhii nin kale waxay leedahay soofur bay leedahay isoofur ayaa waxay noqotay ereyga ugu fudud ee soomaalida qurba joogta ay iminka isticmaalaan ereygaasi qiimaha uu leeyahay iyo dhibka uu leeyahay dadkeeni haddii ay ogaan lahayn xataa kama hadli lahayn marka waxaa dhacaya waxa la yidhahdo chain reaction wax walba sabab bay leeyihiin marka waxaan ka hadalnaa qurbihii baa ilmihii naga hadlayay gaangisiro naga dhigay waa asbuuc yaraan ka hadalnay inaan ku noqdo dooni maayo marka reerkii hadduu burburo caruurtii hooyo looga tago 90% hooyada looga tagaa
burburkii meesha ayuu ka bilaabanaya reerkii. marka sababtay uga duwan tahay hooyooyinkeena aabbayaasheena Soomaali jooga furitaan aan jirin oo dee waddankiina aan joognay oo waddankiina uu gacanna siinayay waxay tahay in reerka isla joogaan ma dhacayn in reerka uu dumo. reerkii been lagu keeno saas ayuu ku dumaa. laakiin jacayl hadduu jiro dadku ay isjecel yihiin danta keliya isugu yimaadeen waa maaragtay jacaylka. dadkiinan dhallinyarada waxaa jira hees ay ku luqeyn jirtay Khatra Daahir Cige qofkaan jeclahay maaragtay si fiican uma aqaan heesaha darin inaan la jiifsado ayay tiri. marka gabadha darin kula jiifsato way ku jeceshahay wax walba ahaw laakiin ragnimadaada la doonayaa xilliga marka la gaaro inaad samaysid. iyo waxaa dhacda a condition ayaa yimaada. waxaa lagu leeyahay 2 bil kadib markii aad guursatid war Cabdinaasir maxaa ku helay gabadhii aye wax ma leedahay ayaa lagu leeyahay. wax ma leedahay wax ma leedahay uur ma leedahay. gabadhii 2 bilood ayaad qabtaa waxaa lagu leeyahay gabadhii maxay u yeelan weysay. shaki baa lagu gelinaya waxaa lagu leeyahay warniyo ninkan xoogaa ma waxbaa si ka abaa lagu leeyahay mise ma dhalis ma ahan maba dhali karaa lagu leeyahay. laakiin adduunka qaabka u shaqeeya waxay tahay dadka isbarashadooda bonds ay u sameeyaan gabadha loola sameeyo wax walba waxa dhacaysa in planning la sameeyo. planningkaasoo ah in la isla fadhiisto wax walba la sameeyo oo la yiraahdo waxaanu sameynaa insha Allah lacag badan naga baxday ama jacayl aan isku guursanay waa inaan aadna honeymoon oo waqtiga ugu fiican ee labada qofood ee isqaba ay sameyn karaan. wadamada muslimka la aada Malaysia Masar meelahaas la aada asbuuc telefoon lama qabto internet lama galo gabadhii aad jeclay baad la joogaysaan noloshiina ka sheekaysanaysaan. laakiin iyadoo la qarish gareeyay 100,000 lama aadi karo sababtoo ah lacag ma harin $1 kuma harin. markaas waxa laga sugayaa reerkii asxaabtii qof walba wuxuu ku leeyahay war haye warniyahow iska ilaaliya lagu leeyahay qoftaan waa qof oo qatar ah oo nuurayso niyow ka gaartay 3 ka soo tuurnaagtan edeb u yeel hadii kale niyow ka tagaysaa. jacayl isku maadan guursan naag aabeen ku guursatay oo 100,000 ku guursatay tabcan waa ka tagaysaa. laakiin hadduu jacayl iyo wax walba uu jiro ka tagi mayso. waxa leeyahay gabadha ka gaarsi waxaad arkaysaa gabadhii oo 19 sano jirta oo waxaad arkaysaa ilaa hadduu ku roon yahay waxaad arkaysaa 3 caruur laga soo tuuray within 3 years oo isku nuug oo isla socdaan oo baalkii rafaadka gabadhii quruxda badneed isbedelaysa. marka maxaa dhacaya 3 sano kadib 3 cunug iyadoo haysto qoftii aad taqaanay ma ahan oo rooska aad ku aragtay quruxda badneed dirac wadatay oo barfuunka ka soo baxay sababtoo ah dhibkii ugu weynaa wuxuu noqonayaa xaruurtii iskuulkooda wuxuu noqonayaa wax walba la sameeyo uu noqonayaa. kadib maxaa dhacaya adiga waxaa leedahay wallaahi qoftaan sidaan ku aqaanay ma ahan marka waa inaan maaragtay plenty of fish ay yiraahdaan odayaasha Soomaalida hadda ay ka dhamaatay waxay leeyahdaan malay badan ama kalluun badan ayaa badda ku jira marka maxaa meeshan uu keenay iyo conditionku ah 4 baa Ilaahay ii baneeyay. tabcan 4 Ilaahay ku baneeyay aamiisa 4 Ilaahay ku baneeyay. waa gabadhii tiri odaygeeda waxay tiri xaajiyo habeen walba guriga ku tukataa cishahe ma nimanka waxa la yiri masaajidka aadan ma masaajidka aadiday tiri. markaas yiri okay saa waa la yiri diinta xataa waxay tiri 4 baa ku banaan bay tiri xataa markaas waxay tiri wada xaajiyo guriga isaga tukay tiri markaa fahmaysaa. tabcan 4 Ilaahay baa ku baneeyay fahmaysaa. waxyaabo badan oo waxa jiraan loo baneeyay oo haddana aan la sameyn karin ayaa jira. waxay ku xiran tahay environment-ka meesha joogtay ay ku xiran tahay. marka sheekadii markay isaan dhacdo qof walba isaga ayaa gardaran. anigu waxaan dhihi karaa gabar Soomaaliyeed ninka 4 caruur ka dhalay ama 5 ka dhalay ama 6 ka dhalay oo waxay doontaba qaadatay ka tagtay 90% gardarada nimankan saaraya. qofkii su'aal ka qaba arinta halkan soo dhigo Sheekh Maxamed ayaa ugu horeeyay. Sheekh Maxamed soo dhig su'aashaada soo dhig qofkii gabar Soomaaliyeed oo caruur badan dhashay ka taga asaka mas'uula sababtoo ah adduunka la suma joogo lama dhalaalo mar walba dhalaalkan ma jiro iyo quruxda iyo ma jirayso. geelu 2 jir ayuu soo wada maraa uun ka gudbaa. laakiin haddii aad isu malaysid waagaas 19 years old markaad ahayd marka waxaa loo baahan yahay in la kala saaro aan kala saarno jacaylka love and the lust. haddii aan kala saarno sheekada waan fahmaynaa. maxaa kaloo dhacaya waxay dadku ka welwelaan
maxaa lagu dhihi doonaa waa dhibka ugu weynaan haysta annaga Soomaaliyeed aan nahay maxaa lagu dhihi doonaa war arooskaagii maxaa laga sheegi doonaa gabdhihi asxaabtada maxaa laga sheegi doonaa fahmaysaa aroosku waa waqti farxad leh dhaantada la dheelaa buraanburka waa la is amaanaa qabiilada la amaanaa oo ah wax runtii shocking ah aroosyada qaarkood qabiil ayaa lagu amaanaya ina reer hebel ina cabdinaasir iyo reerahoodii waxay ahaan jireen dadkii geela dhici jirayo geel dhicitaankii robbery ayaa qabiilada lagu amaanaya marka waa iska dhaqan Soomaaliya qaldan kolley marka sheekada ay dhacdo waxaad arkaysaa gabadha iyo wiilka isguursanaya markaad aragtid indhahooga si fiican oo ay ka dees jecelin hadii kale waad garanaysaa ka arkaysaa laakiin haddii gabadha ay u yara eg tahay in a condition ay ku timid ama qof ma aragtay wax kala la tusay ay tahay indhaheeda ka garanaysaa happiness waxa la yidhahdo ingiriiska lagu yidhahdo farxadda jacaylka lama qarin karo qofka balwada leh ma qarsooma qofka balwada leh waad arrin kartaa wejigiisa hadda maanta haddaan sigaar cabo jahad aan cuno shiishe aan cabo waxyaalaha muqaadaraadka aan sameeyo waad garanaysaa waxaad leedahay bal ninkan ilkihiisa eeg bal ninkan wejigiisa eeg ayaa leedahay waad garanaysaa farxadda jacaylka qofka jacaylka soo maray ama ku jira ama samaynayana waad arkaysaa marka haddii conditionkaas uu sii joogo maxaa dhacaya waxaa dhacaya reerka 2 bilood ama 3 bilood ka bacdi uu dudumaya hawadu ka baxaya laakiin waxaa dhacaysa hadda u fiirso Facebook gal aroos ayaa la soo gelinaya aroos waxaan arkay aroosyo badan ayaan ku arkay waxaan ku arkay aroos ma aragtay gacanta cabitaanka halka la soo marinayo oo saan iyo faraati la soo gelinayo dhaqan Soomaali maahan dhaqan Islaamna maahan taa laakiin waxa lagu dayanayaa dhaqamadan dadka wadamada aan ku noolnahay reer Yurub ayaa lagu dayanayaa marka ma aragteen aroosyo badan ayaa tagteen asxaab waxa leedahay European ama Ingiriis ama Canadian ama Swedish weligiin ma aragteen aroos gaala ah oo cadaan oo dhaanta laga ciyaaray ma aragteen weligiin Soomaalida dhaqanka ay leedahay waa unique waddan Soomaaliya adduunka la mid ah ma jiro dhaqankeeda laakiin waxa lagu maleynayaa hidihii dhaqankii markii aad soo gashay dharkii dhaantadii la ciyaaro buraanburkii la ciyaaro waxa loo maleynayaa igada waxa meesha la soo dhigayaa in la soo geliyo by the way gabdhaha Soomaalida ee xiran dharka hidaha dhaqanka iyo kuusha atarashka leh iyo tan xiran bahalkan madaxa sidaan loo soo saaro ma aragtay touch kala yiraahdo isu fiiriyo idinka kulli go'aanka idinka gaari doontaan anigu gabdha Soomaali wax kama sheego waana qalad qof gabdha Soomaali wax ka sheego isu fiiriyo idinka tii qurux badan timaha marka loo tago timaha loo sameeyo waxa la sameeyo marka guurkii wuxuu noqonayaa in ma aragtay more and more a business iyo commercial uu noqdo marka kama sugaysid faa'iido inay ka timaadid wadaadadan weydiiyay waxay yiraahdeen Cabdinaasir guurku ka lacag badan yahay qarashkiisa ma waarayo waxay yiraahdeen taasi waa xaqiiqo yiraahdeen sababtii markii aan weydiinay waxay yiraahdeen looma baahna qarashkan aan ka hadalnay 100,000 helicopterka la sukareeyo in ay meesha soo gasho lacagta 100,000 ee bangiga aad ka soo deemisay intaad arooska 3 maalmood haday ugu badan tahay socon lahaa adiga reerka wax ugu samee guri ugu samee alaab ugu soo iibi xitaa hadduu ilaahay ku sii caruur dharkii ay gashan lahaayeen iyo sariirtii ku jifan soo iibi laakiin noloshaada bilaha ugu horeeya haddii aad ka fikirtid lacagtii bangiga aan ka soo qaatay sideen ku gudi doona deyntaheed hadee meesha ma yaal gabadhina waxay sugaysaa in ma aragtay aad noqotid Mr. Romantic inaad noqotid oo ma aragtay wax walba aad sameyn kartid reerka aad u sameyn kartid inay noqonaysaa laakiin haddii aan ka fikiro waraaqba soo dhacda boosada ku soo dhacda haddii aan ka fikiro ma bangigii baa maanta albaabka soo garaacaya dhibkeeda ayay leedahay mid waa koow waxaa dhacday qurba joogtii in la yiraahdo gabdhaha Yurub ku dhashay ama ku nool waa kibir badan yihiin waa dhib badan yihiin wadankii gabarha laga doono gabarha loo doono ayaa la yiri gabarha loo doono big mistake
gabar waddankii lagaaga doonay Soomaaliya is very problematic sababtoo ah adigaaba waxaad u baahan tahay dhaqan celis waddankii in lagu geeyo marka gabar waddankii inta laga keenay lagu keenay London ama Toronto lagu keenay waxay noqonaysaa waxay la mid tahay gabar Eskimos ah ama gabar degan New Zealand oo ajnabi adag guursay la mid tahay Maori ku yiraahdo ama kuwa Australia degan ee yiraahdo Aborigine adag guursay la mid tahay sababtoo ah Soomaali waa isla tihiin laakiin dhaqanka iyada wadato iyo dhaqanka adigu tin gabi ahaan way kala duwan yihiin iyo waxa ay aragtid haddii hal mar gabadha Soomaali laga keen indhaha u furmaan oo kuwa islaamaha xaafadaha jooga ee hadda lagu bartay dhammaantooda single mother-ka ah oo reerkoodii ka burburay ama ay burburiyeen hadday gacanta ku dhigaan ma arki karaan reer Soomaali oo dhisan waxay leeyihiin naayaa ninkaaga sidan ku samee iyadoo xogaa educationkeeda ama waxbarashada yar tahay inta la soo buufiyo ayaad waxaad ka imaanaysaa shaqo markaad soo fariiso waxa lagu leeyahay Cabdinaasir xalay 9 habeen markay ka timid ayaa lagu leeyahay weligay 9 habeen waa imaan jiray maxaa dhacay shaqan ka yimid maya shaqada waxaa ka soo bixi 7 intay soo martay waxaan soo maray masaajidka oo maxaa guriga u tukan weyday sheeko condition haday imaato oo islaamiyi xaafada ee kulligood single ka ila sheekaysto you're finish waa ku dhamaatay maxaa ku xiga naayaa waddankan xaq baad leedahay kowde odaygan waxaad tiraahdaa bacda madow banaan ku dhig baa lagu leeyahay bacdaad iyo banaanka taala waxaad arkaysaa Cabdinaasir oo marka dambe saaxiibkiisa Sheekh Maxamed Ibrahim Cawad oo Birmingham joogo qol iyo diyaari leh waa guriga laga soo buriyay ayaad maqlaysaa waana dhacdaa maxaa dhaca dumarka reerkooda burburiyay waa laga ilaaliyaa xaaskaaga inay saaxiib la noqdaan adiga waxaad isleedahay gabadhii haddaad ka keentay Burco ama waxaad ka keentay Garbahaarey haddii ay bartaan dumarka kaliya ay baran karaan waa dumarka qoyska leh cibaadada leh ee ilaahay ka baqaya laakiin waxa jira qurba joog dumar ah haday arkaan gurigiisan waxay leeyihiin miinada way u qaraxday aan qarxay leeyihiin marka qof dhahay ma jirto walaal reerkaaga burburi ma dhahayaan waxa leeyahay ninkaagiyaan arkay ninkaagiya meel ku soo arkay nina maalin wuxuu igu yiri aan la yaabay weligii shiisha macbuun xalma sameyn wuxuu yiri taksiilan ahaa taksigi anoo wado nina wuxuu yiri meeshan iga soo qaad buu yiri waxaan ka soo qaaday yiri maqaayad shiisha lagu cabo banaankiisa ka soo qaaday qof baa meesha soo maray xaaskiisa la yiri ay ninkaaga bahashu bilaw meeshu taagnaa ninkiina taksiilo ahaa reerkii maxaa dhacay bamira loo dhigay dadku dhigaya reer male waxaysan ku faraxsaneen aysan habi ku ahayn reerkan Soomaalida dhisan odayga guriga yimid qoftu waxay tiri ma hadda tagtay meesha shiishada oo saan walla waa ku dhamaatay ما بحشونيسين ولا ليسان إلهي كبق شقنا هاي ماشي وما حاش شقد الشيء ماشي دوكي هذه تكسيلات ذاتها مس أبرأ ودد ما البال قدري كره لكن شقين يسا مركز هركي محل عيا وحلا سما يسوي وحلا هذا first wives club أو إن لا أركي كرين وحلا قفتان يا سوق الشيء هذا سومال كاني ولي بصي يا كتالا عن قرحين هركي يا جالس وده جلية مركز أديك ساي سولة هذا هاي الحمد لله سائس الله هذا هاي قبلنا هذا يتم إنها وفرمة كيبرتان يسكولها ما وحال وقع قبلها كلاي أجانب تا باكستان تا أما مروكان تا أما قوة كلاي إمارتي لكن كذو كدوية لكن وحليها هي من كان محوسة ما يحط نوشة قال لي الله ينك إنسان العقد ما يقوقع تا العقد ما يقعد دولة كوسيسا ها ولا لا يدقيس بركان أكيد في بريمارك وحلا دكان قرح جوكت يا لي هذا شيخ محمد إبراهيم عود يبرق إياك أديك ثاني وحلا هذا بريمارك وش هالشيء اللي وجده نايا بريمارك محو حكاية يبينا يا لي واحد تقدر تفرسعش يدكان ماذا وين مقالة عنكوا حتى إن كان العوكب بوحة قبل دي ولا بوفنايا هذا الكوائن يا قبوجة chairman كي يسوق علي مستر محمود ديري سياسة كما هلا أريمه بوشة كان لنا سولو chairman كا وحسوق علي ماك everything on soo dhaweynaya marka iyadoo sidii ay tahay sheekadii ayaa waxa dhacaya in reerkii markii ay kala dumaa uu dumo oo la kala tago in odaygiina meel uu ku dhaco maaragtay marka maxaa dhacaya aroortii meesha ka baxayaan aroortii iskuulka hooyadii ma qaban karto waataan ka hadalna isbuucii hore cid ka warqabta male marka ayaa waxa imaanaya in xabsiyadii la galo in gaangisradii maartay la istiro shirkadu imaanaysa marka idin leeyahay waa chain reaction ama waa silsilada qofkii yaqaan silsilada xayda
iskuullada Soomaaliya lagu dhigi jiray waxaan filayaa dad yar inay yaqaanaan daahir ciise bulxan inuu yaqaano silsilada xaydha xirsi caamirowna laguna haaranya alla ilaahay habar bad qabtaa waa lagu hubaay rag hadduu horfula ka aragto hibe lagu yeela waa loo hagaajiya anfac waa silsiladii oo kale silsiladii xaydha ay noqonaysaa marka familkii isku guursaday gadaal ayaan laabanayna isku guursaday $100,000 helicopter su keenay gabadhii Soomaaliya ka keenay lagu diray caruur badan dhashay meeshii waa lagu kala degayaa marka maxaa diiday family planning in la sameeyo family planning macnaheeda ma ahan in maartay kaniin lacaba wax kale la sameeyo planning wax fiican طبعا dad muslim aan nahay wixii ilaahay ku siiyo hadalku ma jiro kaas ka waa wax mar walba jira laakiin planning wuxuu yahay gabadhii 4 cunug oo 1 sano 2 sano 3 sano 4 sano jiro haddii aad hal mar ka soo wada tuurtid oo marka dambena aad tirahdid haye haddana cunug kala dhalaynaa is a bad planning sababta waxaa la doonayaa in qofka ma aragtay is not easy haddii nimanka ay uur qaadi lahaayeen oo dhali lahaayeen markaas ogaan lahaayeen laakiin sheekadu haddii ay noqoto kaliya ma aragtay bismillah haddii ay noqoto oo meesha waxba ma soconayaan marka guurka dadka ii soo sheegay hadda dadka markaan aan waxyaalaha aan soo qorqorayay ii sheegay waxay ugu yiraahdeen guurka ugu wanaagsan waa kan you spend less money lacag ka yar laakiin Hilton yaan ku guursanayaa helicopter ayaa lagu keenayaa waxaa lagu xisaabayaa inta maalmood haddana nasiib leedahay inta asbuuc haddana nasiib leedahay inta bilood ee aad isla joogaysaan ilaan runta ay imaanaysaa runta way caddahay waa wax cad it's very clear runta marka gabadhii aniga helicopter iga baratay ma laga yaabaa inay aqbasho Vauxhall Vectra gaariga la yiraahdo gawaarida qurux joogtada iga yeelaysaa no iga yeeli mayso waxay leedahay Cabdinaasir waa Ferrari baan doonayay leedahay ama waxaan doonayaa baalkii ilaan waxaa tahay ninkii jeebka lacagta badan ku jiray laakiin lacagtii waxay lacag bangiga aan ka soo qaatay oo aan soo deensaday oo bishii markay dhamaato lacagtii way sugaysaa marka wiilkii dhalinta yara hadda iska badaa hor Soomaaliya kuwa halkan jooga meeshaan oo gabdhihii inta la isbartay reero dad Soomaaliya is caawinaan gacan ayaa la siiyo qofka duu guursanay waxa leeyahay war xoogaa gacanta la siiyo waa iska caadi laakiin yaa awoodi kara Soomaali ah oo hadda qurbaha jooga oo awoodi kara in uu lacag 50,000 ama $100,000 uros ka bixiyo waa xaraan iska daa Soomaali dhibka ka socday ee haraadka iyo rafaadka iyo gaajada iska dhaaf aday kugu soo laabanaysaa reerkaaga waari maayo waana garanti qof walba Soomaalida North America kuwa Europe qof walba oo og yahay sababtoo ah jacayl ma jirin marka jacaylka gormo imaanaya jacaylka wuxuu imaanaya hadda idin sheegaya gabdhaha iyo wiilasha caawa dhageysanaya kuma jiro Biriq iyo Sheekh Maxamed kuma jiraan qurax joogtada kuma jiraan jacaylku wuxuu imaanayaa marka labada qofood ay isfahmaan maalin walba isla hadlaan ay isu hiloobaan ku helaan ay isu hiloobaan markaas ayuu jacaylka jiraa wuxuu yiri abwaankii wuxuu yiri anoo ila biyele jooga ma og tahay dartaa inaan u oomanahay ila biyele ayuu joogaa darteeda ama dartiisa uu oomaya ergaasi fiican u dhegeyso laakiin hadday sheekadu isu bedesho anoo meel lacag la'aana jooga ayaa waxaan arkay $100,000 adigu aroosiis day noqdo jacayl maaha guurkeen gadaal ayuu dhacay cid is guursanaysa male waxaa bilaabanaysa qudbasreed iyo waan kaa helay meega heshay ayaa noqonaysaa haye bil ka bacdina waa sii fasaxaynaa caawe ma jirto maanta alxamdulillah waalidiinteena saahadeen ku sheeg 50 sano is qabaan 50 sano ani especially aniga aabay hooyaday 50 sano is qabaan ma sha Allah dad badan oo Soomaali caawan ku jira aabayaashooda hooyayaashooda day nool yihiin waxaa jira isqaba ayaa jira 50 sano 60 sano isqaba ayaa jira waayo markaan waalidiinta la waxay jireen waagii hore Soomaaliya furitaanka erigaas wuxuu la mid ahaa qof la yiriyo kale hebel qamri buu cabaa hadda qamri buu cabaa qofka dileed oo wax laga naxso maana saas la mid ah furitaanka Soomaaliya ma jirin waxa soo kale marka ratiga horena ratiga dambe ayuu talaabadiisa ama sanad qof soo yaqaan ayuu leeyahay laakiin qofka ha guursado 2 jeer ha guursado 3 jeer ha guursado waxba dhib ma leh ilaahay baa ku toosin karaa Soomaa
laakiin conditionka markuu yimaado oo lacagaha la isku xiro filinka waa dhammaaday iyo finish gabadhii maanta conditionkaaga si kastadaad u jeceshahay si kastadaad u jeceshahay gabadhii conditionkaaga dhigta jacayl aan jirin oo condition ah oo lacag haddii lagugu xiro waxaad tidhaahdaa iga raalli hawdha qoftaas marka ma jeceshahay adiga jacaylka qaab laysaga saaro daawadiisaan idin haya caawo waana muhiim haddaan idin sheegaya intaan waqtiga la gaarin jacaylka intaan layska saarin gabadha haddii condition ay kugu xirto ay ku tidhaahdo cabdinaasir waxaan doonayaa inaad ii karaysid hilton ama sheraton ay ku tidhaahdo oo aad bixisid $20,000 ku karaysid oo aadan awoodin aadna jeceshahay waxaad leedahay waan ka soo fikirayaa markii aad ka soo fikirtid waxaad isku dayaysaa arrintan aan idin sheegi doono waa muhiim waa jacaylka gabar ayaan jeclay tusaale ahaan nafta iga baxaysa waxaan samay garan maayo qofkana qof markuu jecel yahay laguma qoslo lama yiraahdo war naga dhaaf wax jecel lama jiro jecelku wuu jiraa waxaa laga yaabaa inuusan qabanaya laga yaabaa oo gabar reeraha inta lagu soo guuriyo lagu yiri gabadhan iska guurso waa ka jacaylka markuu ku hayo sida kaliya ee la isaga tirtiri karo waa adoo jara communication any communication oo jacaylkaaga ah xiriirka jacaylka la jaraa sidee loo jaraa abukar cawaale welcome sidee loo jaraa waxaa loo jaraa hadda ayaanu ka hadlaynaa tusaale ahaan facebook ayaa jira whatsapp ayaa jira balay ayaa jirta gabadhii aad isjecleedeen gabi ahaan haddii ay condition kugu xirto guurkeeda waxaad samaynaysaa in aad safaaradda ka qaadatid kow way adag tahay bisha koowaad naftaa kaa baxaysa telefoonkeeda sawiradeeda ugu daran sawirada isla qosi jirteen oo asida dir jirteen facebook waa la tirtiraa whatsappka social media meel walba waa la tirtiraa asxaabteeda kugula jira facebooka iyada gebi ahaan meel alla meeshii sawirkeeda blog ayaa la saaraa xaafaday degan tahay waxaa laga guuraa 50 kilomitir ayaa laga guuraa bisha ugu horeysa nafta ayaa kaa baxaysa habeenkii waxaad leedahay barkimada ku moodo beer ka saaro ma ogtahay ayaad leedahay isku maayo nafta halkan ayaa ku xanuunaysa bisha isku sii adkayso caata ayaad noqonaysaa cuntada ka go'aysaa jecelka ayaa ku hay laakiin ma arkaysid haddii aadan arkin waa fact la keenay jecelkaasi wuxuu kaaga baxayaa bit by bit tartiib ayuu kaaga baxayaa maxaa kugu qasbay 20,000 30,000 40,000 in hilton aad ku karaysid gabadha ma u qalantaa 100% horaan u sheegay bilowga barnaamijkaan sheegay gabdhaha soomaalida waxay u qalmaan baan ku yidhi badweynta hindiya u qalmaan laakiin qof walba tabartiisa ayuu ogyahay nin walba oo jira oo soomaaliya badweynta hindiya ma keeni karo marka haddii la isjecel yahay oo la doonaya reer in la dhiso waxay noqonaysaa sheekada in la isfahmo oo la yidhaahdo qof walba muggiisa ayay tirahdaa soomaaliya muggaaga inaad ogaatid laakiin haddii aad bangigii aad ku laabatid oo $100,000 aad deen kusoo qaadatid filinka waa qarxaya deentii ayaa ku sugaysa gabadhii ayaa ku sugaysa ilmo badan ayaa dhalaysa waa la iska hor imaanayaa maxaa imaanaya ifur ayaa imaanaysa ifurna waa erey aad u xun erey ka xun oo soomaaliya ifur ma jiro dad ayaa hadda waxay samaysaan xaflad ah heblaaye waa la furay ciyaar ma caasho waa la furay iyo xaflad loo samaystaa kuwa ka soo qayb galayana 99.9% waa kuwa la soo furay waxay ku farxayaan reerkii dumay ay ku farxayaan taas waayo dumarkaas waa laga ilaaliyaa xaasaskiina iyo waa laga ilaaliyaa waxaa leeyahay war allahuma najayna ilaahu kuwan maaragtay sababtoo gurigooda ay soo burburiyeen waxay doonayaan guriga in la burburiyo kow maxaa kaloo hadda soo baxay dhalinyaradii waxaa dhacday xaflad ayaa la samaysanayaa honeymoonkii lama aadin de honeymoonkana waan ka hadalnay honeymoon waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan war wax honeymoon la yidhaahdaa soomaali awal lama aqoonin soomaali honeymoon waa ka jiray waxaan tagaa dhowrkii sanaba hal mar ayaan tagaa sanad waxaan u tagaa hargeysaan tagaa hargeysa markaan tago waxaan isku dayaa inaan la kulmo hadraawi oo kale waa maaragtay
waa library waa maktabad waa national treasure qofkaasoo kale intuu nool yahay qof walba waqtigu dhimanaya ilaahay waqtigu intuu nool waa laga faa'iidaystaa waa la ag fadhiistaa ani waan ag fadhiistaa 100 su'aaloodaan weydiiyaa waa iga jawaabaa mar walba waa qorta waxaan weydiiyey sababtoo ah waa dadka la doonayo in taariikhda waa jiilba jiil waa la isu gudbiyaa waxaan idhi adeer honeymoon soo ma taqaanid baan idhi haa waan aqaanaa buu yidhi honeymoonka ma dadkan caddaankii waxaa noo keena maya buu yidhi honeymoon waxaa laga yaaba inay naga barteen xoogaa waxaan is idhi soomaali oo honeymoon ka jira waagii waxaan ka hadlaynaa 100 sano 200 sano kahor haa buu yidhi gabadha aqal soomaaliga marka lagu guursado meel waxaa la jiray gabadha waa lala orday ereygaa si fiican dhegeysan raggeena qurbaha ku dhashay gabadha waa lala orday ayaa la jiray waa lala orday gabadhii marka lasoo nikaaxo oo meel la geeyo baadiyaha baabuur ma jirin diyaarad ma jirin facebook ma jirin wax ma jirin gabadhii wiilka reerkoodii meesha ay ka safri jireen reerkii kale ay u tegi jireen waxay qaadan jirtay asbuuc reeray sii mari jireen soomaaliduna waa dad maaragtay martida aada ugu wanaagsan intay sii socdaan reeray sii marayaan waa la joogayaan keligood aqal soomaaliya banaanka gurigiisa laga dhisi jiray meesha cunto lagu siin jiray meesha la joogi jireen romantic ahayd habeenkii oo dhan buurahan wuxuu ii sheegay buuraha golis wuxuu ii sheegay heesan oo maaragtay samatar u qaaday jacaylka buuraha golis dhankiisa kala joogo kale buurahaasay ku socon jireen dayaxaas ayaa wuxuu ahaa satellite navigator kaata lagu socdo u ahaa yiri asbuuc sii socon jireen marka asbuuca honeymoonka lagu sheegay meeshu ka yimid is originally from Somalia hadda laakiin maxaa isbedelay hadda waxaa la doonayaa in gabadha aa ka dhaadhicisid dhegaysa saaxiib may jeceshahay ha jacaylkana dee been lagama sheegi karo wallaahi qofkii ku yidhahda jecel been ka sheegay qof hadduu maanta ku yimaado ku yidhahda gabadha wiilka ma jecel yihiin horaa ka sheegi kartaa laakiin gabadha hadday khatar iska dhigayso oo sanka saan u taagayso halkan ordayso jecel ma jiro jacaylku waa qaabkay u istaagan tahay qaabkay kuu soo eegayso qaabkay u socoto waa astaamo aad u fara badan gabar ayaa soo weydiisay hadda kahor waxay tiri macallin cabdinaasir macallinka waxaan ka hadlaya dhanka kale waxay tiri wiilkan waa isjecelnahay ayay tiri waxaan hold on one second waa isjecelnahay waa erey aad u culus waan jeclahay dheh adigaa jecel asaga mogid inuu ku jecel yahay in kale marka waxaad tidhahdaa ma jeceshahay dheh waxaan waa inuu jecel yahay maxaad ka ogtahay inuu jecel yahay wuxuu yidhahda waan ku jeclahay kuma jeclaanina kuma jecla hadduu kira waan ku jeclahay qof ku dhihi kara bal ka waran soomaaliya gabar baan la hadlay waxaan leeyahay caasho waan ku jeclahay anoo wejigayga saana no you don't do that jacaylka lama sheego afka lagama sheego afka lagama sheegto adigoon jecel arag lama sheego afka lagama sheego jacaylku waa natural wax natural ah oo qof ka soo baxa maryam rasul maxay tiri indha caashiq buu igu eegayo indhaha actionka wiilkiina wuxuu yidhi markaa gabadhan inay jeceshahay sideen ku ogaan karaa simple waa waxa adduunka ugu fudud aad ogaan kartid gabar inay ku jeceshahay astaanta ugu horeysa ee gabar inay ku jeceshahay aad ogaanaysid waxay tahay haddii aad isla joogtaan labadiina keliya aad is ag taagan tihiin mar walba waxay dhacaan ama dharbaaxay kugu dhufanaysaa ama saanay ku kala tuuraysaa xanaaq macaan weligan ma qashin xanaaq macaan baad ka dareemaysaa mar walba way kugu xanaaqsan tahay laakiin wejigeeda waxaad garanaysaa baalka secondly erey kasta oo afkaaga ka soo baxa way ku qoslaysaa tusaale ahaan waxaa leedahay caawa waxaa wada ciyaaray Sweden iyo Italy kubadna ma taqaano Sweden iyo waxaad leedahay Talyaaniga laba ku badiyaan dhaaq way qoslaysaa waxba kama oga football waxay ku qoslaysaa erey kasta adiga aad tirahdid control emotionka ma jiro ayaa ka soo saaraya gabadha way jeceshahay markii adiga iyo asxaabtaada ay isla joogaan mar walba waxay jeceshahay in ay dagaal macaan ayaa jira ma aan dagaalka la isfeero ee dhuunta la isqabto dagaal macaan ay kugu wadaa mar walba waxay ku tusaysaa kuma dhahayso wallaahi cabdinaasir saan u jecel kuma dhahayso waxay ku leedahay war naga dhaaf faa'iido ma lekan waxaasay ku leedahay
mar kastana waxay leedahay asxaabtaada markuu isaga maqan yahay maxaa laga hadlay, maxaa la sheegay, maxaa la yidhi ay leedahay. dad ayaa weli garan la. doctor aan ku salaamaya Abu Dhabi soo dhawaa. dad badan ayaan ogeen dagaalka macaan iyo xanaaqa macaan. marka gabadhii haddii aadan isdhihin waan ku jeclahay, waad jeceshahay, waan ku jeclahay, haddaadan isdhihin meesha ma aragtay jacaylka lasuma sheego, afka maba laga sheegaba. aniga ma dhihin afka lagama sheego, maba arkin jacaylkii. maadaa aragtay jacayl? maxaa dhacay marka? waa laisu hiloobaa, waa listabaa. ihilow waan ku heelanaya. marka soomaalidu waxaa la yidhahdaa nation of poets. waddan soomaaliya la mid ah adduunka ma jiro. waxaan nahay waddanka wax walba, dad xun ayaan nahay, waan islaynaa, dagaal, balaayo, gobollaan samaysnaa, laakiin ilaahay wuxuu na siiyey waxa adduunka ugu wanaagsan, oo waxaan nahay nation of poets. ummaddii gabyeyda ayaan nahay. hadda erey kasta u fiirso oo soomaali ah gabay ayaa ku jira ama murti ayaa ku jirta. murtidaas ayaa wax walba ka yimid, jacaylkana meesha u raacaya. marka markii uu yidhi anoo ila biyo la joogo, ma og tahay dartaa inaan u oomanahay. This is not easy. Ingiriiska kuma dhihi karaan. Can you imagine English singer ama American singer die? I am in a water place, raining, am I still thirsty? Ma dhadhamayso. waa Soomaali. qofkii maanta ku yidhahda you Somali people, no 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 yeelin, no no no. ani waxaan yidhahdaa where you from? Somali. Oh, Somali, too much trouble. No no no, we are a nation of poets. What do you mean? mahmahayaashii saddexda ahaa carabiga, ingiriiska iyo buugiyaan wata aniga akhriyaan leeya. yaa kaloo dhihi kara waddan adduunka jooga dhihi kara ma jira nimaad dhashay kuma dhalin? ma ingiriis dhihi kara nimaad dhashay kuma dhalin? waalidkooda xabaday ku dhuftaan kuwaas. marka jacaylkii haddii aan kusoo laabto, jacaylkii xaaskaaga iyo adiga ma isjeclaan kartaan? soomaalida inta badan xaaskooda ma jecla. gabadha intaysan guursan way jecel yihiin, laakiin xaasku in la jeclaada waa qiso kale oo ka duwan. marka ninkaagii ama odaygaagii ay isqabteen dhowr sannadood, ma isjeclaan kartaan ama ku jeclaan karaa? ha. dada waxay wadaan flowers ayay wadaan. flowers micnaheeda ma ahan, anaga dhan waa wadnaa mar walba. flowers micnaheeda ma ahan jeceyl. jeceyl afka laga yidhi jecel ma ahan, waa actionka, waa waxa dabiiciga naturalkaaga yimaada. qofka haddii maanta adoo iska fadhiya aad soo xasuustid aad xafiiskaaga jooga aad tidhahdid xabiibti ii waran xaalkaaga aad tidhahdid waa jacayl. iyadoo isniin la jooga hadaad tidhahdid xabiibi jimcaha aniga adiga keliya carruurta waxaan kaga tegaynaa gabar asxaab aan nahay, waxaan ku kaxaynayaa meel, waa jacayl. haddii aad tidhahdid samarka haddii la gaaro waxaan doonayaa inaan maaragtay carruurtii aniga aan isla raacno, ma ahan. waa arrintan ka hadla last week, waa very bad. haddii aad tidhahdid waxaan kaa kaxaynaya guryaha dhaadheer ee consulka ee ku yaala Toronto, waxaan geynayaa Stockholm, that's no holiday. holiday waxaa la geeyaa 5-star hotel oo waddan kale oo maryooley kale aan joogin ayaa la geeyaa. soomaali dhan isma arkaysaan. haddii kale sheekaa bilaabanaysa, gabar kale oo soomaali oo dariska ah oo shaqaanaan ayaa telefoon ka qaadanaysa, wasla hadlaana haye ninkaagii ma ogeed wuxuu sameeyey habeen hore waxaan arkay asoo meeshaas maraya. dhib ayaa kugu bilaabanaya. marka dhibka ayuu halkan ka bilaabanaya. marka taas lama yeela. haye jacaylka ayaan sii wadnaa. maxaad arkaysaa? gurigaa timid, waxaad aragtay gabadhaadii oo maantana laabta dhaqaysay, guriga hoover ironing, feeradii wixii o dhan haysay. waxaad tidhahdaa xabiibi xoogaa bal fadhiisashaha aan kuusoo sameeye, waxaan sameeya waa jacayl. laakiin in maqaayadaha fadhiiso sidoo dadka aad meesha kasoo caysid Facebook oo shaqalaan ay ku hayso oo aad tidhahda xaaskayga waa jeclay, no no no, that's not jacayl. jacaylku maa wax afka laga yidhahdo, waa actionka. haddii aad baxdid oo xaaskaaga aad usoo iibisid 10 kiilo oo dahab ah, jacayl ma ahan. laakiin haddaad tidhaahdid waxaan jeclahay in 10 kiilo dahab aan kuu soo iibiyo, tax ugu soo dir sidoo kale, waa jacayl. laakiin hadday sheekadu aniga xaaskayga isma fahanno oo sheekooyinka hadda maaragtay oo soo baxay dhib ayay noqonaysaa. marka suurada cabdiqaadir maxamed faarax birq saaxiibkii qaaliga wuxuu yidhi suurada, of course gabdhaha soomaalida waa unique dhanka suurada. gabar aan suuran yaa la hadli lahaa. ma gabar aad tirid
abay waan kaa helay maad dhihi lahayd yes waad iga heshay nakeen israacane laakiin kuwa waxaa jira exaggeration sameeya ayaa jira too much markaasa ragga qaarkoodna waa ka faniinaan waaba ka ordaama ma arki karaama kuwaasoo kale ya xoogaa waa cusbaa la isku daraa laakiin too much cusbo haddaad isku dartid cuntada xataa mara dhamaysa moogtahay dhadhankaa ka baxaya adiga cunto kari hilbahan soomaalidu ay nafta kaga baxday oo maalin walba maaragtay stroke iyo balaayada ay ku dhacdo kariyo cusbo badan ku dar dhadhankaa ka dhammaanaya laakiin gabadha hadday iska dhigto mataqaanaa laakiin haddii ismailkii yaraa qosolkii yaraa cilmi boodhari alaabtii lagu qabtay inkastoo hadda aan maqlay buugaag aan akhriyay cilmi boodhari TB ayuu dhintay jecel uma dhimanin ani maba aaminsanay Soomaali waa jecel noocaasaa ka jiray qosolkii yaraa hodan iyo haddii sheekooyinkaas ay maaragtay ay timaado feelinka ma fiicna laakiin hal habeen gabar aad aragtay ma jeclaan kartid waad ka heshay waa la iska helaa axmed muuse germany waan ku salaamaya soo dhow ma jeclaan kartid waa last waan kaa helay ma iga heshay ha waan iska heli karnaa no problem at all marka ka helitaankii hadduu soo raaco arooskii $100,000 ahaa waa ku dhammaatay weli taam ayaa noo horay barnaamijka aad ayuu xiiso badan yahay dadka jecel badan ayaa ku jira waddan kastoo adduunka macal Australia New Zealand waa laga soo galay aad ayaa idin salaamaya dhammaantiin waxaan ka hadlaynaa arrimaha bulshada ku soo dhawaada marka waxaa kaloo jira oo hadda la arkay oo soo baxay in la arkay guur nooc kale ah oo aan lagu aqoonin qurbaha waa qurbaha kaliya aan ka hadlaynaa Soomaali weli waxaa ku dambeeya aroosyo oo waxaan ku aragnay oo maaragtay nooc kale ayaa lagu arkay waxaa la arkay oday 70 sano jira 70 sano jira Faiza 70 sano jira oo gabar waxaad arkaysaa make up oo waxa la dambasta make up inta loo mariyay la soo ag fadhiisiyay it's not fair waa iska naqaanaa Soomaalida odayaashu waxay yiraahdaan hadalkii hore wuxuu ahaa oo aan ka hadalnay gabadha been ayaa lagu soo xirigeliyaa runna waa lagu dhaqaa oo been ah laakiin hadda waxa soo baxday markaan leeyahay Somali Nation of Poets waa sidan wuxuu leeyahay naanin ku dhali karaa ku dhaqi karaa waa odayaasha Soomaalida ereyada ay isticmaalaan of course nimanka mature-ka ah waxoogaa da'dooda ay sii weynaatay sida daahir bulxan iyo sheekh maxamed iyo birq raggaasoo kale waa la fahmi karaa laakiin raggeenan dhalinyarada ah oo hadda da'dooda ay u dhaxayso don ilaa iyo 40 ay u dhaxayso dad badan ayaa qosi doona 40 u dhaxayso ma dhihi karno nin ku dhali kara ayaa ku dhaqi kara waa been nin 80 sano jira hadda Soomaali waa lagu arkay nin 80 sano jira ayaa wuxuu leeyahay gabar waxa loo guurinaya baalkii waa waste of time oo waqti lumis waa waqti lumis sabab waxa dhacaysa in caruurtu dhalay iyo gabadhu guursaday caruurtu dhalay ka sii weyn ayaa dhacaysa laakiin nimanka amateur-ka ah waxay mar walba ka fiican yihiin wiilasha dhoocilada ah ee maaragtay gabdhaha intay been u sheegaan adduunkaba u malay waa maadeys adduunyada dadkuna way mataliyaan kuwaas ayay 100% ay ka fiican yihiin ka yeeli maa sheekh maxamed 39 marka arooskii markuu dhaco maxaa la sameeyaa horta qof yaqaana ma jiro qaabka haddii aadan hor usoo guursan ma taqaanin expectation waxa la yidhahda aad ayay u xun yihiin jacayl ma jiraa expectationka aad ayuu xun yahay sababtoo ah waxaa laga yaabaa in image uu magaxda uu ku jiro arooska markuu yimaado habeenkii dhallinyaradan ka hadlaya kama dadka soo wada guursaday iyo hore usoo guursaday arooskii markuu yimaado maxaad sugaysaa waa planning ayaa laga hadlay jacaylka ayaa laga hadlay marka jacayl ma jiraa planningkii haddii la sameeyo jacaylka wuu jiraa sababtoo ah planning markii aad samaysid adiga aad tirahdid waxaan qaabkan u samayno ilaan guriga marka la dhisay hoos ayaa laga soo bilaaba laakiin haddii guriga dhistiisa aan kor ka soo bilaabno roofka dhib ayuu noqonayaa marka habeenkii dadka ay isguursadaan oo jacayl ayaan ka hadlayn la isu guursaday planning ayaa la sameeya waa la isla fadhiistaa waa la wada hadlaa laakiin sheekadu hadday noqoto sidii aflaantii maraykanko hotelkii marka lasoo galo dharka la iska tuur hadday noqoto sheekadaas waxba ma jiraan waa qiyaali wax ka jira ma jiraan ama sheekooyinkan hadda maaragtay Facebook aan gacanta la iska dhunkaday waxaas waxba kama jiraan dadka isjecel arrimaha la samaynayo
waa 30%. arrimaha la samaynayo waxaa laga yaabaa caruur inay daawanayso ama ay maqlayso, marka ma doonayo inaan graphic aan sameyn. arrimaha la samaynayo waa 30%. qofka adiga aad jeceshahay aad guursatay 70% intuu kula joogo, intuu kula fadhiyo, intaad la hadlaysid, intaad is eegaysaan ayaa kasii qiimo badan waxyaalaha odayaasha qaarkood qalbigooda ku jira. qiimaha waa kaas. gabadhiyo hurda markii aan halkaa ku shidid saana u eegtid oo aad tirahdid maasha allah wallaahi qof iga nasiib badan ma jiro aad tirahdid, taas part of the jecel waad neegaysaa. laakiin ma ahan waxyaalahan kale ilaahdo jecelka kaas ma ahan, waa lust. lust waxay la mid tahay nimankan oo maaragtay ciyaalsiyaha shaxaariyiinta ah oo waddada mara oo gabar iyagoo qaba oo xaasas leh naa kale markay arkaan indhaha saan u wareega. hadda waxaa soo baxday nin waxaa la ii sheegay maaragtay oo maaragtay waddaduu saan u marayaa, xaaskiisu la socdaa, gabadha halkan ka soo socota waddada kale. marka dee gabadhii xaaskii oo la socota gabadha ma eegi kara soo maaha, gabadha kalena waa kasoo hor socotaa. marka wuxuu leeyahay gabadhan diracan quruxda badan watay ku dhaafin. xaaskiisa la socdo sheekaysanaan, ha haye caruurtii maxay tahay, lacagtii xawaalada ma dirtay, ha sheekaa socotaa. waxay leeyihiin aye lacagtii maaragtay saan ma samaysa bilaahi ha. markaasa markii ay saan usoo dhaafto wuxuu leeyahay xabiibi gurigii dariskeena ahaa korontada ka jabtay, gurigii u fiirinaya. marka gabadhii kale uu rabin inuu arkano saan u dhaaftay tii saan ku fiirinaya. marka iyada ma dhihi karta gurigee, gabdha waa iska masaakin, gurigee isna waa fiirinaya, qoftii uu sii fiirinaya. wuxuu leeyahay allay lehay jacaylkii jid buu iga rido. markaasuu kusoo dhac gabadhii uu jeclaanayaa qoftii ka hortay soo xaaskiis la socota. marka what kind of love is that? waa lust. waa lust. lustna waxay noqonaysaa in ma aragtay adoo wax macaan, cunto macaan adoo gaajo ku haysa inta lagu soo agmariyey marmarka candhuufta dhareerka la yidhahda kaas waa dhareerkii oo kale lastiga. marka jecel shaqo kuma leh. waxaa noo hartay weli waqti fiican ayaa noo haray, waan sii wadaynaa insha allah. marka ma jiro maxamed my brother oo ku salaamaya, ma jiro marka haddii qofka ku yidhahdo jacaylkaas ayaa jira, gabadhaas ayaan jeclahay, ii sheeg astaantaada. hadda odayaashiin halkan ku jira, horta odayaasha ka badaa gabdhayo waa maxay astaanta ku taqaani jacayl? wallahi waan is aragna waa iska helnay, waa wiil qurux badan inta no qurux iskuma jeclaado. no qofkii ku yidhaahda hebel iyo heblaayo way qurux badan tahay, quruxda ma sii joogayso. maxaad samaynaysaa gabadha guursatay hadday xusul burur ay noqoto 20 sano kadib? maxaad samaynaysaa bis odayga maaragtay timaha ay ka dhammaadaan oo maaragtay oo maaragtay isku dhegdheg? maxaad samaynaysaa marka? quruxdii aw shakhsiyadda personalityga la isu guursadaa, la isku jeclaadaa, isku helidda qof aadan karin. laakiin sheekada haddii ay noqoto reerkeena maaragtay gabar ay iisoo raadeen iisoo heleen hadday noqoto way kuu dhammaatay. waayo hooyadaa iyo aabbaha guriga adiga aad degan tahay ee farxadda aad doonaysid inaad ka samaysid kulama degana. marka waxaad samaynaysaa hooyadaa iyo aabbaha iyo qaraabada iyo dariskaad farxad gelisay, waayo gabar ay rabeen baad guursatay, adigana farxadumaad ku nooshaa. maxaad samaynaysaa marka? guurkaagii is done finish. laakiin iyo happy ah, hooyada waxay ku leedahay maasha allah wiilkaygii gabar oo reerka ah oo hebel hebel ayuu guursaday, wallaahi xaafadoo dhan waa lagu faraxsan yahay. adiguna waxaad ku nooshahay xayaatul kalb ayaad ku nooshahay. qof waxaad guursatay inta ku galaysa adduunkana waxaa ugu daran naagaha dumarka soomaaliyeed ee dhibka badan. wallaahi noloshaad nacaysaa. wallahi meelaad ka baxday adduunkii oo dhan jahwareer ayaa kugu dhacay. nimanka kaliya soomaaliyeed ma saari karno eeda. gabdho waxaa jira xun ayaa jira runtii dii loo hadlo oo nimanka depression ku rida oo guriga ka soo orda. gurigaagana waxaa loogu talagalay in aad ku nasid. u fiirso hadda magaalooyinka qurbaha ah, london, toronto, stockholm, helsinki, inta maqaayadaha soomaalida tag, nimanka fadhiya fiiri inta u dhaxaysa 7 habeenimo ilaa iyo 11 nimanka fadhiya fiiri kulligooda gurigooda habi kuma ah. waa fact. ninka gurigiisa habi ku ah waxaa lagu yaqaanaa in hadduu shaqeeyo, shaqada markuu ka soo baxay gurigiisa wuxuu ugu soo ordayaa ilaahow traafikadan dhaafsi ayuu ugu soo ordayaa. gurigiisuu imaanayaa, wuxuu imaanayaa family faraxsan oo happy ayuu imaanayaa. laakiin nimankan meelaha fadhiya waxay ugu baxaysaa ay jecel yihiin ragga saaxiibadooda ah ee maqaayada la fadhiya, sheekada ugu baxaysa. guriga markay soo aadayaan waxay noqonaysaa xoolaha ma aragtay oo iidda marka 10 xoolo marka meel isugu keeno mid laga soo qaado oo qoorta laga jaro
ilaan xoolaha waxa xataa yaa la susan la yiri marka horta laga jiray kan kale la soo taas kale noqonayaan marka maqaayada la xiray waxay leeyihiin haye caaw dhaqsi xirteen haye waa baxaya insha Allah khayr asugnay ninkii waxa arkaysa wajigiisi caaw dhan qoslaayo oo saaxiibadiisa markii dambe saan dhahay okay waa baxaya ilaan naagtii u socday guriga joogtay xumayd alaab ka soo galay qoftiyo waxaad arkaysaa haddii nasiib ay leedahay kugu soo boodaysaa haddii kale waxay ku leedahay waryaa intee ka timid aa leeyahay fura ma haystid fura waa lagu diiday waayo furaha waxaad leedahay markii ay jiifatay ayaan guriga tegi doonaa ayaad leedahay fura ma jiro war fura ma haysid soo gal lagu leeyahay iyada waxa kala dhacsan ninkan hadduu hal eray uu ku yiraahdo dumarka qaarkoodna haddii ay ka arkaan ka baqaysid waxay kugu kor soconayaan si aan caadi ahayn albaabka soo gashay inta ku maqnay Cabdinaasir wallahi dhalinyarada xaafadan la soo baashaalay xaafada soo fadhiis sheeka galabta ay u soo sheekeen kuwii singalada single mother-ka ahaa ee rabay reerka inay burburiyaan yaa waxa lagu leeyahay habeen hore waxaa like samaysay Caasha sawirkeeda ay soo gelisay iyadoo aroos joogto ama xaflad goboleedka joogto ayaa like saartay waxa la yiri daantaada qofkii rabaa inay maamaha Soomaaliya ay jirta marka waxa kale oo la yiraahdaa anoo oohin ay hayso ayaa sac dibkeeda igu taabatay oohinaba ku haysay sac ayaa ku agmartay inta kaaga dhufatay qoraad ka weynay Soomaa marka waxa lagu leeyahay like maxaad u saartay hadii way ku dhamaatay like iska daayay qof xor baad tahay waxaan dhashay anoo xor ah waxaan dhiman anoo xor ah like iska daayay qofkan rabaan isku sawiraya Soomaa taas waa respect la isku joogo hadii laakiin wada like maxaad u saartay rag baa hadda caawa Facebook ku jira wallahi inay isku dhicin like inay saarkan sawirada qaarkood ama ay dhihi kareen maasha Allah xataa sidii kale ka baqayaan sababtoo ah waa la sheegay waxa leeyahay war ninkii Cabdinaasir xalay qoftii yada ahayd hiblaayo Caasho Shukri ayuu sawirkeeda wuxuu saaray like ayuu saaray waa kan wariyaa ma hatta keentay in Shukri sawirkeeda like asaartay Caasha waxa lagu leeyahay meesha hoose salootada ah ama living room ku jifa lagu leeyahay humiliation waa lagu fadeexaynaya waa humiliation waa fadeexaynta subaxdii waxaad arkaysaa ilmiyo iskool u socdo adoo hurdo la'aanta kugu dhacday saan u kala qalloocdo ayaa waxaad arkaysaa gabadhaada wiilka kule aabo maxaa ku dhacay ku jiifiyay ay ku fahmayaan carruurtaada marka waxa maxaa ka daran in carruurtaadii hortooda humiliation lagu sameeyo marka dambe waxa lagu leeyahay edeb ma lihid albaabka ma shaqaysaa maya albaabkan kama bixi kartay lagu leeyahay carruurta doon iskuulka lagu leeyahay طبعا dadka deesha shaqeyn carruurta waa doona anaga dhammaan doona ma aha wax lagu qasbo wax waa shaqo guri waa dadka kala tarxaysa laakiin waxa lagu tusay waxaad aan lagu tusay carruurta doonaysa shopping waa la isla aadaa shopping ka qasab lagaaga dhigaya waxa kaaga sii daran waxa lagu leeyahay iskuulka carruurta xilligaas aad ka soo qaadaysid waxa taga kaliya dumarka inta badan dumarka Soomaalida iyo gabdhaha carruurta iskuulka keen Soomaa iyadoo sida ay tahay leeyahay dumarka waqtigaas lagu waadinayay maartankii idabtaan u yeelay xalay waa soo diray gabadhii Shukri iyo Caasho sawirkooda like saaray xalay markuu imaado salaatadu jiftay maanta ilmihi aan u soo diray ma aragtay ha wallahi qof caadi ma intid qatar laakiin waxa ka sii fiican lahayd ninkan ma idab iyo shido oo banaan ku turtid maxaa u baahan tahay marka ma fikiraysa reerkii ma burburaya jecelkii ma dhamaanay waxay leedahay bal aan sugo next time waxa lagu keenayaa in lagu yiraahdo haye mobilkaaga inta yaala fur ayaa lagu leeyahay facebookaaga si bad news si kasta qofka aad soo jeceshihiin haddii condition lagaaga dhigo facebookaaga iyo telefoonkaaga numberkiisa daa jeceshahay si iyo maaragtay no qof walba wuxuu leeyahay privacy asagoo goonay ayuu leeyahay haddii kale waxay noqonaysaa sheekada musqusha markaad soo gashido adiga alaabahaga aad samaynaysid aniga dhankaada aan soo gala ma soconayso wax walba waxay leedahay privacy iyo xad ayay leedahay dadka xataa is jecel yihiin xad ayay leeyihiin marka odaygii maxaa lagu qasbayaa hadda waxaa soo baxay iPhone iyo balaya soo baxday telefoonada message ku soo dhaca Instagramka WhatsAppka waxaa laga dhigaa notificationka disable laga dhigaa sana loo riixaa sababtoo ah telefoonkii halkan aad dhigtay hadduu soo dhaco waxaa arkaysaa Caasha ku soo wacaysa rag badan aan aqaana asxaab aan ahayna kulligooda magacyada gabdhaha ay shaqaanaan ama hoos ka shukaansadaan waxay ku soo gareeyeen Cabdinaasir 1 Solo 2 Solo 3 Solo 5 Cabdinaasir kan baalkii telefoon badan ayaa leeyahay marka qofka hadduu arko telefoonkii soo dhacay Solo 1 hadii la dhaho waa Solo ku soo wacay sheekadu waxay xumaanaysaa haddii gabadhii ay qabato ay tiraahdo ay adeer Solan salaamayna halo adeer ii waran oo gabadhii ay tiraahdo abbaay jaamac ma la hadli karaa deedaada ku dhamaatay dad badan ayaa saasama waa loogahay si fiican ayaa loo ogahay raggaas marka maxaa dhib ilaahay ma keenin adduunka waxay noqonaysaa haddii adiga marriage-kaaga ama guurkaaga aadan happy ku ahayn waxaa jira marriage council wax la yidhahdaa jira
marriage councilka ayaa la tagaa lagama xishoodo waa maxay councilka waa dad expert ah oo yaqaana dadka dhibka dhex maray wax walba ayaa looga hadlaa waxaa looga hadlaa sex therapy wax la yidhaahdo waxaa looga hadlaa wax walba guurka familka qoyska burburay wax walba looga hadlaa waa tegaysaa meeshaas waxaa lagu leeyahay haye cabdinaasir adig gabadhan maxaa dhacay waxaa laga yaabaa waxba inaysan jirin laakiin dadka ma fahmayaan sheeka soomaaliga oo ah heblaaya tiri iyo heblaaya soo tiri iyo islaantii dariskeeda waxay soo tiri sidan insan ma fahmayaan waxa meesha imaanaya in dadka ay kula yaabaan ay ku yidhahdaan maxaa waqtigaaga iyo lacagtaada ay isaga beerdareynaysaa ama isaga luminaysaa waxba idin madax yaalaan waa la soo raacay waa la yimid asxaabtii galabtii la soo hadashay waxay leedahay waxaan rabnaa nairobi inaad guri nooga gadid ama dubai what the hell maxaa guri ka gado london ka gada ama toronto ka gada ama meesha joogto maxaa dubai adaa iskale mise nairobi ama soomaaliya ka gada daaragta lagaa burburiya ama lagaa xoogay haddaa doontida sababto iyada kama imaanin qofaa usoo sheegay waxaa la yidhi ninkan lacagtii ayuutada this is no interest free ayuutada ayuu soo qaatay guri gadde kama imaan iyada condition waxaa lagaaga dhigayaa bangiga inaad lacag kasoo deemisid oo meel guri ay kasoo gadid aadan shaqo ku leyn marka dambena aad ku khasaartid marka maxaa dhacaya guurkii markuu halkaasuu gaaro odayaashiina ay baxaan ay muqdisho ay tagaan gabdho waxay soo baranayaan 17 years old qoftii qaylada badneed oo salootada ku jiifin jirtay oo wax walba kugu samayn jirtay waxaa leedahay arrivederci aad leedahay waxaa la maqlaysaa maalintii dambe arooskii adduunka oo faraati laisu gelinayo adoo taay weyn kuu xiran yahay oo xamara aroos ka dhaca laleeyahay oo maarata hotel hebel ka dhacay ninkii aroosay haddana adduunka wax ka foolxun male nin over 40 ah oo maaragtay gabar yar oo 15 jirta intuu guursaday gacan saan isu hayaan asoo caruurtiisana ay joogaan london ama toronto ama god knows where marka meesha maxaa ku dhumay familkii ayaa ku burburay familkii waa burburaya markaa maxaa dhacaya chain reactionkii ayaa dhacay silsiladii xeel ayaa israacaysa waxaa imaanaya in caruurtii xabsi ay ku dhammaadaan caruurtii drugs ay ku dhammaadaan waayo waxa keenay beentii laisku guursaday oo ahayd tii koowaad ee $100,000 laisku soo guursaday ee deynta loo soo qaatay ayaa keenay arrintan marka yaa dhihi kara hadda aad ayuu yiri imise qofood ayaa dhihi karta aniga waxaan xaasla ahay dadka waxaan ka hadlayaa under 40 oo kale ama under 50 xataa yaa dhihi kara imise qofood ayaa dhihi karta waxaan xaasla ahay 20 sano ma jirto almost waa impossible sababtoo ah guurkii wuxuu noqday ganacsi wuxuu noqday commercial ayuu noqday ganacsigana haddii meesha interest aan oolin lacag aan laga samayn waa lagu kala dhaqaaqaa dukaan haddii aad furtid maanta alaaba aad ku iibisid alaabihii ay lacag keeni waayaan waad xiraysaa soo maaha xiritaankii waa furitaanka soomaalida u noqday kaa markaa gebi ahaan marka waa lisgaadaa hadda gaaditaan ayaa timid haye waxaa leeyahay how long aad u malayn karta inaan isla joogi karno subxaan allah how long wallaahi 6 bilood I'll give it 6 months 6 bilood haddii aan isla joogno sib ayaan leenahay marka 6daa bilood waxaa laga yaabaa 3 mataan inay dhashaan laga yaabaa marka caruurtii meesha lama fiirinayo laakiin jecelku waa ka duwan yahay gabadha hadday kugu timaado jecel ay kugu timaado adna jecel aad ugu tagtid guurkiina waa raagaya sababtoo ah jecelkii ayaa idin kala wadi karin soo maaha laakiin sheekadii kale mahmaahyo badan ayaan sheegnay mahmaahyadaas waxaa ka mid ah kuwa qaladka ah ee la yidhi gabarta been ayaa lagu soo xerogeliyaa run waa lagu dhaqaa is a fake waxba kama jiraan gabadha run ayaa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa gabadha waxay ka jeceshahay inaad tirahdid saaxiib dhegeyso waan ku jeclahay laakiin $200 kaliya aan hayaa wadaadka nikaaxa aan siino laakiin waxaan kaa ballan qaadayaa haddaan shaqaysto waxaan qabsado in waxaa doonta aan ku sameeyo guri aan kuu sharxi doono waxaan iska ilow waayo arooska haddii lagaa sheekeeyo hal asbuuc ayaa lagaa sheekeeyo lagu iloobayaa maamaha labaad waxay ahayd nin ku dhaqi kala ku dhali kara waxba kama jiraan waa beenbeenta odayaasha 5 naagood guursado oo ku sameeyaan iyo hadda waxaa jirta mahmaahyo badan oo Soomaalidu maaragtay ay u isticmaalaan qaabkan si oo yiraahdaan sida marka tan ugu yaabka badan oo Soomaalidu isticmaalo waxa gabar lama guursadee reerkooda la guursadaa no I don't marry reerkooda I marry the girl waa sheeka Soomaaliga nacnacda waxba aan ka jirin gabar lama guursadee reerkooda la guursadaa waxa laga wadaa gabadha reerkooda hadii xun yihiin wax xunta sababtoo ah reerka ayaa la talinay that's why ya qofka markuu yiraahdo ay Cabdinaasir gabadha aan qabo
hadda kore la soo weydiiyey gabadha aan qabo reerkoodan waxaan rabaa in la dego reerkooda in lala dego iska daayay xataa waddan ay ku nool yihiin lama dego ade soomaaliya dee dantaaba keentay waa lala degi karaa laakiin gabar adiga aad qabtid reerkooda waa laga dheereeyaa waa problem sheekadan ah gabadhaad qabtid gabar lama guursadee reerkoodaa la guursadaa no I'm not gonna marry her mom or her sister or laakiin micnaha lagama wado inaad hooyadada guursanaysid iyo walaasheeda waxaa laga wadaa iyadana taasoo kale maxaaba keenay sababtoo ah the worst thing waa hooyada ingiriiska waxaa la yidhahdaa mother in law joog ayaa jirta ma ahan hooyada inay xun tahay laakiin gabadhu waxay maqlaysaa hooyadeeda waxaa leedahay naya ninkii dahab ma soo iibiyey naya ninkii reerihiin lacag ma u diray meeshay kaaga soo bilaabanaysa gabarna hooyada way maqashaa marka waxaa la sameeyaa haddii ay degan tahay toronto waxaa la degaa new zealand laga degaa hadday muqdisho degan tahay waxaa laga degaa hargeysa hadday addis ababa degan tahay diridhaw ayaa laga degaa marka waa laga fogaadaa dadkuna markay isjecel yihiin soomaali dhaqan ayay leeyihin laysuma tago waxaan xasuustaa dhowr sano ka hor qof inuu ii sheegay wuxuu yidhi gabadhayda 5 sano gurigeeda ma tegin maxaa dhacay dee dhaqan soomaaliga gabadhaada gurigeeda habeenkii arooska kadib lama tago waa dhaqan soomaali waayo baan idhi dama doonayo yidhi aniga iyo wiilkii sodahoy ahaa inaan iska hor imaanay iyo meelahaasi dooni maayo marka waa la iska ilaaliyaa adiga waxaad ka ululeysaa islaamaha single motherka ee dadka gabdhaha ku diray ayaad ka ululeysaa waalidkeeda respecta loogu tagaa diyaarad ayaa loo raacaa waa lasoo salaamaa iyadoo lais jecel yahay ayaa lasoo tagaa waa lasoo kala tagaa laakiin maalintii sheekada ay noqoto wallaahi hooyaday alxamdulillah intay noo soo degtay ilmihii ay la joogtaa waxay noqonaysaa dhib weyn ayay keenaysaa waan la arko waana fact waxaa leeyahay waryaha haddaysan tahay gabadheena noo soo fur gabadhi xataa kama imaanayso waxaa leeyahay gabadheena noo soo fur bad familka waxaa la iskula joogaa saas asalaamu calaykum wacalaykum salaam hooy nabad soo ma aha thank you very much waxaan arkay sanadka dambe aan imaan doonaa insha allah waan soo salaameynaa waa dhammaatay reerka waa reerka meesha jooga marka reerkaad ma qabtid gabadhaad qabtaa waxaa kaloo soo baxay hadda oo la arkay waxay tahay in ay yidhaahdaan dumarka qaarkood waxaan israacaynaa caasho iyo shukri iyo heblaayaan israacaynaa halkay isku raacayaan waxay leeyihiin Morocco ayaa soo baxda iyo Turkey iyo meelahaas la isu raacaa shirarkan hadda dhaca kuwa dawladda iyo meelahaas la isu raacaa bad news xaaskaaga ma loo baahna in ay dad kale raacdo adiga iyo qoyska israaca hadda imisa qofood waa very few dad Soomaali ah qoys ah oo maaragtay israaca oo holiday ama dalxiis isu raaca waa very few waa aad u yar yihiin sababtu maxay tahay ugu horeyn waa dhanka dhaqaalaha sababtoo ah maanta waa impossible ama maba dhici kartaba qoys ka kooban 8 in ay Dubai u duulaan $20,000 ticketka ayuu noqonayaa marka laga hadlayo planning waa kan oo kale laakiin qoyska meelo waxaa jira dalxiis loo tago oo lacag yar ay tahay marka waqti ayaa la soo qaata waqtiga ugu wanaagsan ma aha guriga la joogtaan guriga waa laga tagaa environmentiga la bedelaa meel kale ayaa la tagaa very few people ayaa qoyskooda intay meel isu raacaan iyo dadkan la diro caruurta la iska diro iyo meelahaas haddii Soomaaliya ay tagayaan no problem waa la iska diri karaa laakiin mar walba waxaa fiican in la iswada raaco oo meeshii loo wada tago inkastoo odayaasha qaarkood marka gabdhaha ay maqan yihiin ay ka gaarsiiyaan waa muhiim si fiican loo socdo sheekada hadda Marwe Trick waa salaaman tahay Stockholm waa sidii shiicado kale 6 bilood iyo 3 bilood laga dhigay laakiin waa laga gaarsiiyay ka gaarsiinta ayaa dhib keenta hadda dad ayaa waxa jooga hadda waxay leeyihiin ay qoftii iskuulkii waa xirayeen waa samarka iyo ilmihi waa maqan yihiin qoftaan waxaan ku heshiinay inaan iska gaarsiino maxaa iska gaarsiinaysaa ama qoftaan iyadan waa okay ana waa okay wadaadkan u tagayna si kaxsanayna xalaal ayaan isku nahay no xalaal isku ahaada laakiin is wrong mustaqbal ay ka hadlaysan guur kaas maba soconayo maba shaqaynayaaba almost waxa waa mid shaqaynaya ma aha sababtoo haddii aad ku heshiisaan aan isguursano waan isu kululnahay kale jacayl ma yaalo wax ma yaalo sheekadu waxay noqonaysaa waa lust waxa kaliya ka baqaysid waa dhanka ilaahay waad leedahay aan nikaaxsado laakiin weli been ayaa sheegaysaa haddii dadka kale been u sheeg iyo qoyskaaga laakiin ilaahay been uma sheegi kartid waa lagu jeeda waxaa samaynayso ma saas ayaa dhacday in fursadda la isku helo fursadda marka la isku helana reerkii markay yiraahdaan waa soo laabanayna airport hebel iga soo doon qoftii waxaa la leeyahay dagaal aan jirin ayaa la isku bilaabay dagaalka maaragtay beenbeenta waxaa la leeyahay qof yahay waxaa noqonaysa sheekadu waa iga fasaxan tahay waa shiicada saas sameeyaan hoos qudbasireed hoos ayaa gacanta la iska geliyaa waxaa la leeyahay 6 bilood saan oo kale
marka ma jecel baa jira mise waxaa jira marka goormaad ogaanaysa jecelka inuu soo dhammaaday waa su-aasha ugu dambaysa waxaa noo hartay 10 minute ayaa noo hartay jecelka inuu soo dhammaado goormaa garanaysa isbeddel weyn ayaa ku dhacaya dhanka nimanka ayaan ka eegaynaa nimanka markuu jecelka u kasoo dhammaado waxaad arkaysaa ninkii habeen walba guriga fadhin jiray oo iminka isbeddel ku yimid oo adduunkana waxa uu foolxunin over 50 ah oo shaati intuu hoos ka xirtay timaha shanlaystay barfuun chip ah soo gatay oo banaanka intuu soo baxa gaariga soo dhaqday caawa meel ayaan u socdaa leh oo naaga kala raadinaya adduunka wax ka foolxun male isuma jeedo wuxuu is leeyahay weli waxaa tahay 20 jirkii quruxda badnaa ayaa tahay jecelkii uu soo dhammaanaya marka teleefonadii wada hadalkii habeenkii marka carruurta la seexiyo halkan lagu kaftami jiray wuu soo xirmayaa jecelkii nafta ayaa kasii baxaysa waa gebagebo yaasiinka ayuu soo maraya marka maxaa kaloo dhacaya dagaal aan jirin aan ku bilaabo gabadhii cuntada kuu soo karisay oo aad tiri cuntadan ma kulula aad banaankaa ku tuurtay waa dagaalada raadiska ah la doonayo adduunkana waxa ugu xun dumar lagu sameeyo waa cunto ay karisay ama shaaha ay samaysay oo la yiraahdo waa xun yihiin xataa hadday adduunka ugu xun yihiin markay ku tiraahdo how is it perfect nice ayaa la yidhahdaa wax kasta ahaadaan waayo effort badan markay geliyaan sidaa lagu sameeyo wax ugu xun male dumarka marka sheekada meesha ka bilaabanaysaa naa wuxuu leeyahay baasidan qabowga anisis maxay tahay wallaahi gurigaan habeen maalin waa u shaqeeya laakiin wax la ii qabanaya male wuu isxanaajinaya inuu baxuu doonaya sababtoo ah si ku baxa male waxaad arkaysaa telefoonkii oo 24 hours musqusha ula gelayo markuu sigaar soo cabay gaarina telefoon ayuu wataa telefoonkiisa intuu halkan yaallo uu jiifo waxba ma soo dhacaan notificationka inuu saan u sheeg waa ka xiran yihiin kulli call waa xiran yahay meel walba waa xiran tahay notificationka haddii laga xiro wax soo dhacay male laakiin markuu ku laabto wuxuu arkayaa wixii message ahaa balaayuu arkaya marka si uu kaaga taga male sababtoo ah waxaa isu keenaysa dan weyn ama gurigaad isla leedihiin ama meeluu taga male qofta kalena waxay leedahay maxaa kugu haya kasoo dhaqad war ilmihii yaa laga wadanayaa inta saansaan why not marka jecelkii sakraad ayuu haya kabacdi maxaa dhacaya waxa dhacaya si uu ku baxay uu doonaya marka wuxuu bilaabayaa habeen dhax ninkan hadduu habeen soo dhaxo waa dhammaatay dee habeen dadku ay soo dhaxaan haddii safar la aado ama shaqo la aado ama qoyska laga warqabo waa lasoo dhexi kara dhib male laakiin nin intuu baxay soo dhaxay oo ku yidhahda xalay saan ay ku dhacday waa sakraad maalinta damban waxay noqonaysaa inuu yidhaahdo aniga maarkas ma fahmayno boorsadu qaadanaya uu kaa tegaya 2 jeer baad oynaysaa noloshii kuwii dariska ahaa ee singalada ahaa ee caadiga ayaad gelaysaa waana ku dhammaatay is finish familkii meesha ku burburaya maalintii dambe waxa kugu xun waxay noqonaysaa qoftii kugu talagashay in ninkan ay kaa furto walla war xalay maxaan aragnay cabdinaasir iyo qoftii oo wadada isla marayo gacanta saysaan aragnay maxay ku dhigi kartaa waxay leedahay ninkan asaa soo raadsaday adiga ma ahan meeshii kugu dhammaatay dumarka depression ayaa ku dhacaya qofkan depression markuu ku dhaco caruurta over 18 uu sameeyo guri kama soo baxayo cudurkii qofkii markii dambe stroke ayaa ku dhacaya strogana cudurka ka sokow wuxuu leeyahay stresska iyo fikirka iyo waxyaalahaas dhaca marka muhiimadda ugu weyn ee caawa aan kaga hadalna life wuxuu ahaa jacaylka ganacsi ma aan ganacsi laga dhigin wiilasha Soomaaliyeed ee doonaya inay guursadaan condition yaa lagu xirin gabdhaha ayaan la hadlayaa condition yaa lagu xirin qofka hadduu ku jecel yahay oo aad ka aragtay haloo tartiibiyo hala yiraahdo haye dee adiga ragnimadaada tan kale gabar doonaysa ma jirto nin busaarad ah oo jaad cuna oo sigaar cabo oo balwad la shiisha cabo gabar rabta male gabar walba waxay rabtaa wiil wanaagsan oo ahlu salaad ah oo maaragtay shaqaysan kara ninka ragga hadduu shaqaysan karo wax walba kuu qaban karaa laakiin ninka hadduu ku yiraahdo walaali waan ku jeclahaye halkaan aan fadhiyo 24 hours lacag ma haysto dowladdan ceer ka sugaya dee ninkaas nin maaha jacaylka waa inuu wataa economy waa jacaylka inuu dhaqaale yar u wataa laakiin gabar yeelaysa male maaragtay waxba kuu qaban maayo waxba kuu samayn maayo inkastoo gabdhihiiba ay noqdeen bread winner waxa la yidhahdo ama cuntadaba iyo shaqadaba gabdhaha ay u badiyeen hadda waddamadan reer Europe haddana gabar yeelaysa ba yaraatee ma jirto laakiin haddii conditionkii wiilkii 30 jirka ahaa ama 20 jirka looga dhigo in maaragtay la yidhahdo 100,000 iyo aroos ku dhacaya haddii kale gabadhan arki maysid haddee sheekadu waxay noqonaysaa waa business ay noqonaysaa business day tahay anna dee waxaan rabaan samaynaya soo maa marka sheekadu waa sidaa laakiin hadda xaalka hadduu sidan ku socdo Mrs. Hoda Ahmed soo dhow xaalka hadduu sidan ku socdo
wax hagaagaya male jacayl ma jiro been ayaa laisu sheegayaa waxay noqonaysaa sheekooyinka messageka laisku soo diro facebooka oo gabar qurux badan intuu facebook halkiila waan ku jeclahay waxay leedahay maya ima jeclida facebooka iyo sawirkayga jeceshahay is in love with your picture sawirkaagu jecel yahay qofka sawirkaada markuu jeclaado haddana ayaamaan waxaa soo baxay apps ayaa soo baxay oo laisku qurxiyo hadda kor baa idin sheegay apps ayaa soo baxay isku qurxiyay saa u leedahay ma gabadhuu boodhari jeclaan jiray ba hodan ayaad leedahay markii ay kaa hor timaadana waa hortaysaa sababtoo ah waxaad jeclaatay sawir ayaad jeclaatay facebook aad ka jeclaatay you're in love with the picture not the person saad u jeclaan karta qofaa facebooka ka aragtay adoon qaabilin oo arkin shakhsiyadeeda personalitygeeda qaabkay tahay iyo waxay tahay sababtoo ah waxaa kugu dhacaya disappointment waxa la yidhahda kugu dhacaya ama runtii niyad jab ayaa kugu dhacaya haddii qofka aragtid waxaa lagu qaataa qofka inaad face to face ay soo aragtaan kadibna facebook aad ka jeclaatid markaas qofka aad aragtay laakiin qof aad isku baxdeen aad jeclaateen oo wax walba maalinta dambe waxaa dhacaya waxay ku leedahay waxaad igu timaadaa Nairobi ama Mombasa airport markay ka hor timaado waxaa is leedahay ilaahow yaa diyaaradii kugu celiya yaa is leedahay sababtoo ah waxaa kaa soo horbaxaysa qof si kala teeda kale ma ahan in qofka gabadha haddii qaab kale ay tahay aan la jeclaan karin waa la jeclaan karaa jecelku qurux ma ahan keliya qofka inuu ku jeclaado laakiin qiyaali ayaa lagu baray oo facebook lagaa baray hadda apps ayaa jira hadda maaragtay gabdhihii waxay soo bilaabeen flowers halkan la iska saaro flowers qurux ka dhiga iyo makeup oo aniga gacmaha keliyaan fiiri hadda haddii saana soo saara gacanteeda ma jeedaa aniga haddaan ab soo saari lahaa waa kan gacanteeda waa kan gacantii iyo wejigii laakiin haddii aad aragtid qof halkan carab ka ah halkan nigerian ka ah haddii waxaa la yidhahdaa walaale wallaahi maasha allah qurux badan tahay sawirkaaga horta waxay tiraa gacmahaadaan ka helay maalintii gacmaha qofkana waa is iloobaya ogow beenta waa la iloobaa caawa haddaan been ii sheego habeen dambe xusuna waa iloobaya haddii aan idhaahdo walaalo wallahi gacmahan kaagan ka hela alla gacma qurux badida ama aad leedahay faraantiyan rabi inaan kuu soo iibiye bal fartaada tus ilan waa ceeba gabar lama dhihi kara farahaaga tus moogtahay markaad tii maasha allah haddii nigerian halkan ka aragtid carab halkan ka aragtid oo kuu dhammaatay waxaa leedahay kugu soo laabanaya marka beent meeshaas ka timaadaa marka qof adiga aan makeup iyo app aa ku jeclaatay haddii uu ka hor imaado nooc kale u noqdo maxaa samaynaysaa marka you're done you're finished albaabkaad ka ordaysa waa baxaysa waxaa leedahay waan is arki doona waa soo laaban dad badan ay ku dhacday waa la ogyahay dad badan ay ku dhacday waa la ogyahay diana balkan la yidhaahdo ani gabadhaa bay tiri cabdinaasir ma diana marstaa la yidhi diana waxaan u aqaanay gabadhii boqortooyada iyada 97 Paris ku dhimatay waa maxay diana markii dambe la ii sheegay diana waa bahal halkan la ismariyo laakiin de meel walba la iskama marin kara wejiga iska marinaysaa gacmihii waxa adduunkana aniga personally waxaan ugu necbahay gabar is caddaysa korkafaanta hoos Coca-Cola xidig thank you natural beautiful Soomaali wax ka qurux badan adduunka ma jiro waa la isku raacay gabdhaha dee xogaa makeup iyo xogaa waa la iska samaystaa laakiin gabdhahan maaragtay oo afrikaanta ah oo wejigooda moodid maaragtay inay ay Swedish yihiin oo maaragtay dhanka kalena dee wejiga passport waay wejiga passport marka passportkii hadduu nooc kale uu noqdo waa ku dhamaan dad hadday kugu dhacdo adoo airport ka soo degay oo Stockholm iyo Toronto ka soo degay lagu yiraahdo excuse me who is this white person dil wiilado Soomaali waa ku dhamaatay hadda gacmahaaga ay arkayaan Soomaa marka waa salaamantiin dhamaan Ramadaan Kariim jimco wanaagsan waqtiga ayaan u dhamaaday 1.5 hour runtii waqtiga aad ayuu ordo 1.5 hour ayaan ku soconay Ramadaankana meel fiican inoo maray insha Allah jimco walba at 10 p.m. waqtiga Abdulrazak Kroj my brother oo salaamaya 10 p.m. every Friday night insha Allah maalinta jimcaha Soomaalidu waxay tiraahdaa maalinta jimcaha habeenka jimcaha no waxaas ma jiraan waa Friday night kaliya 10 o'clock ayaa noo balana dad badan ayaa soo kala caawa maasha Allah kadib waxaan soo dhigayaa isagoo sidaan waxaan soo dhigayaa YouTube dad ayaa ka socda YouTube ayaan soo dhigayaa inta wad kulmi doono anigoo ah Cabdinaasir waxaan idin leeyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعلكنا يبسي معه